ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله ما وقتي إنه أنا كمان هذا علينا قالي هذيك عاشبة ما شاء الله أنا سيسين جزاكم الله خيرا سامرتي نوصل شرفتين الله يدي شرف. Okay. Live screen. Share. All right. Wabilone. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيد سلامي دكتور عبد السمد يا عاشا. Thank you. ملاك سلامته. waxaan maanta maaragtay halkan aan ku sameynayna barnaamijkii aan ugu talagalnay inaan ku wacyigelino Soomaalida qurba joogta ah iyo guud ahaanba Soomaalida meel kastaba ha ku noolaadaan inaan runtii aanu keeno dad khubro ku ah meelaha ay maaragtay ay ka shaqeynayaan. maanta waxaa marti inoogu ah Dr. Abdisamed Cali baa inoogu ah maanta marti oo ah dhaqaatiirta ka tirsan waddankan Ingiriiska bayskiisana uu yahay magaalada Birmingham. dhaqaatiirta runtii ku takhasusay neefsashada iyo sanbabada weeye kuleba asaga maaragtay si fiican inoogu sii faahfaahin doona. laakiin runtii dadka ka shaqeeya ah cudurkan hadda COVID-19 loogu magac daray ee dadka aafeeyay runtii meesha maaragtay gargaarka degdega loo geeyo dad dhaqaatiirta ka shaqeysa oo ku howlan ayuu ka mid yahay. waxaa kaloo maanta marti inoogu ah Caashe Raage oo ah iyaduna qof dumar oo runtii aad iyo aad noogu qaali ah oo qiimo badan oo ka mid ah ururada Soomaaliyeed ee aadka ugu howlan runtii sidii wax looga qaban lahaa dadka uu runtii saameynta ku sameeyay xoogga leh cudurkan COVID-19 marka labadiinaba soo dhawaada. waxaa gadaal naga soo geli doono oo kale oo asagana maaragtay maanta nagala qayb qaadan doono barnaamijka Sheekh Cusmaan Usuli oo ah sheekh runtii aad iyo aad asagana u qiimo badan oo aad dadkuna u yaqaanaan oo asaguna dhinaca maaragtay xagga diinta asaga laftigiisa nagala qayb qaadan doona waxay diinteenu ka qabto ka hortagga cudurkan iyo faafidiisa iyo sidii dadkeena aan runtii ugu dhiirigelin lahayn Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka samata bixiyo. waxaan marka ugu horeysa jeclaan lahaa inaan fursadan aan u qaato marka ugu horeysa inaan dadkii ku dhintay Soomaaliyeed ee cudurkan runtii dartiis u dhintay Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naxariisto jannadiisana ka waraabiyo ehelkoodana samir iimaan uu ka siiyo. dadka haddeertaan ku xanuunsan oo Soomaalidana Ilaahay runtaa inuu maaragtay qaadir raxmaanka inuu caafimaad taama uu siiyo ayaan ugu ducaynaynaa. marka waxaan jeclaan lahaa marka ugu horeysa inaan ku soo dhaweeyo Dr. Abdisamed. Dr. Abdisamed waxaan jeclaan lahaa marka hore xogaa yar maaragtay hadda adiga aad warbixin yar iska bixisay shaqadaada ku lug leh dabadeedna markaas aad maaragtay naga siisid maaragtay mawduucan maanta shaqadaada qaybta aad ka qaadatay aad kana qaadanayso runtii oo maaragtay soo diyaarisay presentation asagana baan filayaa. marka Dr. Abdisamed soo dhawow. Assalamu alaikum. Jawahir waan ku salaamay dhammaan dadka soo qayb galay barnaamijkan iyo sida fiican ee adiga iyo guddigaaga aad u soo qaban qaabiseen aad iyo aad ugu mahadsantihiin. anigu waxaan ka shaqeeyaa hadda magaalada Birmingham waxaan ku shaqeeyaa qaybta la yiraahdo samabada caafimaadka waxaan agagaarkan hadda ka shaqeynaa muddo 9 sano ah. marka waxaan maleynayaa samadu markii hore waxay ahayn back seat ama kursiga gadaale ay fadhiyeen laakiin nasiib darro runtii cudurkan COVID-19 ayaa horay soo mariyay. waxaan fiirinaya shalayto BBC-da top 10 tobanka wax ugu badan oo la akhriyo kullina waxay ahayn coronavirus. dadkii noloshooda ayuu saameeyey waqtigoodii ayuu saameeyey shaqadoodii ayuu saameeyey marka sababtaa darteed ayaan dabcan adiguna aad barnaamijkan u qabatay aniguna aan uga soo qayb galay. aad baad u mahadsan tahay Cabdisamed. marka waxaan jeclaan lahaa inaan maaragtay muxuu ahaa barnaamijkeena wax weeye adaan ku siinayaa presentationkaaga sameynaysaa haddii Ilaahay yiraahdo kabacdina waxaa jiri doonta dadka maaragtay daawadayaasha ah ama nugula jira khadka ama ha ahaado Zoomka ama ha ahaado khadka Facebooka in marka aan siino fursad ayagoo wixii su'aale iyo qaba
adiguna aad maaragno jawaabahooda aad maaragtay aasiisida haddii ilaahay yiraahdo soo dhawow Dr. Cabdisamed. aad baan dhawahay jazakallahu khayran. ma aragtaan screenka ma loo jeedaa? ha waa loo jeedaa ha. ugu horreyn waxaan rabaa inaan iraahdo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Muslimka Ramadaan Kariim kulla aamin wa antum bikhayr. waxaan rabaa inaan marka xigo sharxo insha Allah ta'ala qofka marka uu ku dhaco cudurka COVID-19 sida isbitaaladu ayay ula tacaalaan. waxaan rabaa inaan dadku inay maqlaan kelmadda ula tacaalaan sababtoo ah cudurkan daawo ma laha. qofkii uu ku dhaco waxa uu qaban karo dhakhtarku waxa weyn inuu la tacaalo wixii kalmaati ama gargaar u siin karana uu siiyo. marka hore waxaan bixin doonaa insha Allah ta'ala horudhac waa maxay cudurka COVID-19. COVID-19 waa cudur ka yimaada coronavirus 2 viruska la yiraahdo oo badanaa saameeya sanbabada laakiin jirka intiisa kalena dhibaato gaarsiin kara. wuxuu bilowday dhammaadkii sanadkii 2019 saas ayaana loogu bixiyey kelmadda 19. COVID-na waxay u taagan tahay coronavirus disease. marka COVID-19 saas ayaa loogu soo gaabiyey. wuxuu ka bilowday magaalo la yiraahdo Wuhan ee ku taala dalka China. markuu bilowday waxaa dhacday in xoogaa maxaa la yiraahdaa iclaamka iyo meediada laga qariyay. dowladda China ay isku dayday inay ayaduna xakamayso dadkiina aysan mataqaanaa aysan macluumaad sax u gudbin. saas ayaa waxaa sababtay inuu u gudbo magaalooyin kale oo China ah. kabacdi wuxuu u gudbay dalka Philippines. ku yaala uusan jirin ilaa hadda waxaa la sheegaa inuu ku dhacay ku dhawaad 3 milyan oo qof ay u dhinteen ilaa 200,000 oo qof. calaamadaha lagu garto COVID-19 kolba waxaan u maleynayaa waad ka dharagsan tihiin. waxaa ka mid ah qofku inuu qufaco qufacaasna uusan qofkuusan waxaa ka soo saarayn in qofku uu maxaa la yiraahdaa qandho qabato ama mataqaanaa xaraaradiisa ama temperaturekiisa uu kor u kaco. qofku inuu daalo waxaan ku aragnaa dadka ajnabiga ama dadka madow daal badan jir xanuun badan iyo waxaa jira calaamado kale oo aanan markii hore aanan dadka u caddayn in cudurkan uu leeyahay sida qofku in maxaa la yiraahdaa caraftu ka tagto qofku cuntada ama baraafunka uusan carfin karin uusan dhadhamin karin cuntada hortaala si kastoo u macaan tahay in qofku uu calool baxo. waxaa intaasii dheer waxyaalo kale oo mataqaanaa halis gaarsiin kara wadnaha maskaxda iyo meel walba jirka meel walba gaarsiin kara. dabcan waxaad ogtiin sida loo kala qaado dadku waa ka dharagsan yihiin baan u malaynayaa. waxaa loo kala qaadaa qof qaba cudurka ama astaantiisa ha lahaado taasna waa in la xasuusnaado. dad waxaa jira astaantii cudurka aanan lahayn oo cudurka gudbin kara. qofkaas oo qufaca markuu qufaco ay ka yimaadaan mataqaanaa qufaciisa ama hindisadiisa ay soo raacaan dhibco ama dropletkaas ayaa qofka kale ama neefsanaya ama meel uu dropletkaas ku dhacay ayuu intuu taabto ayuu afkiisa ama sankiisa ama indhihiisa gaarsiinaya. sidaas ayaa marka sida u badan loo kala qaadaa. dropletkaas meeqa ayuu hawada ku jiri karaa wax cad oo la og yahay ma aha. qofka qufaca inta uu ku jiro ee uu ku gaarsiin karo markii hore waxa la dhihi jiray 2 mitir dad baa waxay leeyihiin 6 mitir wax iyada la isku raacsan yahay ma aha laakiin guud ahaan saas ayaa loo kala qaadaa. marka waxaa muhiim ah oo aad u aragtaan aad u maqashaan ka hortagga iyo muhiimadda ay leedahay sababtoo ah marka aan qaybta dambe aan hadalkayga u gudbo waxaad ogaan doontaan ka hortaggu inuu aad iyo aad uga muhiimsan yahay in la daaweeyo. marka in guriga la joogo muhiimad bay leedahay sababtoo ah adiga haddaad qabtiin dadka uma gudbinaysid dadkii qabin kuma soo gudbinayaan. gacmahaaga inta meelo kusoo taataabatid ilmahaaga reer guriga kula joogay uma gudbinaysid. waxaa kaloo muhiim ah qofku inuu gacmihiisa uu saabuun ku dhaqo muddo 20 second ah si uu viruskaas u dilo. qofku inuusan taaban jirkiisa meelaha uu virusku galo sida afka sanka iyo indhaha. qofkii isku arka calaamadahana inuu iskarantiilo gurigiisa uu joogo muddo 7 maalmood ah kabacdina uu fiiriyo inay weli calaamadihii jiraan. haddaysan jirin qofka waxaa la yiraahdaa dadka u bixi karaa. laakiin baaritaan markii la sameeyey waxaa la ogaaday ilaa muddo 20 maalmood ah qofku qufaciisa
inuu weli ama dhibicdiisa ka soo baxaysa afkiisa in weli viruska laga heli karo viral shedding inuu jiri karo ilaa muddo 20 maalmood marka karantiilkuna saas ayay muhiim u tahay waxaan kale oo rabaa inaan halkan maxaa la dadka aad iyo aad ugu booriyo inay ilaaliyaan dadka jilicsan oo ehelkooda qofka waalidka ah qofka xanuunada qaar qaba oo gadaal uga hadli doono in la ilaaliyo waa sax in la soo salaamay inay muhiim tahay laakiin ay muhiim tahay in laga ilaaliyo cudurka sida kaliya looga ilaalin karo qof walba inuu gurigiisa joogo qofkii cudurka qaban oo meel su karantiilo intaa wixii ka dambeeyana waxay ku xiran tahay dal walba iyo dad walba iyo waxay awoodaan marka qofka xanuunka qaba haddii uu guriga joogo waxa u habboon inuu asagu iska warqabo oo uu nasto biyo badan cabo sababtoo energy baa qofka ka lumaya inuu xanuun baabi'iyo cuno paracetamol baa ku filan haddii paracetamolka wax ka weyn u baahdo inkastoo doodo badan ka timid ibuprofenka oo kale uu cuni karaa qofku inuu ehelkiisa ilaaliyo saan hore u sheegnay mujtamaca guud ahaan baynu ilaaliyo marka waxaan u gudbahayaa qaybta aan rabay inaan ka hadlo oo ah qofku marka uu isbitaalka yimaado muxuu filanayaa inuu la kulmo wuxuu filanayaa qofku in uu qaabilo nurse iyo dhakhtar oo laga baaro laga fiiriyo waxyaalaha muhiimka ama vital signs ka la yiraahdo sida blood pressure-kiisa in la fiiriyo inuu hooseeyo qofka hadduu blood pressure-kiisa hooseeyo waxaa dhacda inuu u baahdo in isbitaalka la jiifiyo waxaa kaloo la fiirinayaa aad iyo aad muhiim u ah la markaas meesha ku qoran wax la yiraahdo oxygen saturation ama qofka oxygenkiisa oo inta farta la saaro sensorkaasna uu sheego qofka oxygenkiisa meesha joogo meeshaas waxaa ku qoran 97 97 marka wax alla wixii ka badan 94 iyo agaarkaas waa la aqbalaa wixii ka hooseeya waxay sababaysaa qofka in la sii baaro oo laga fakaro inuu u baahdo qofka in isbitaalka la dhigo waxa laga qaadaya qofkii dhiigag fiirinaya in ay jiraan calaamado infection inuu jiro waxa kaloo laga yaabaa waliba hadii uu qofku oxygenkiisa saturationkaas ay hooseyso markii lagu fiiriyo mashiinadan monitorka in laga baaro in laga qaado dhiig toos xididka la yiraahdo artery la yiraahdo oo cirbadaas oo kale looga qaado la yiraahdo ABG waa xanuun badan tahay dadku badan ama jecla annaguna inaan qaadno ma jeclin laakiin qofkii u baahda taas laga qaadaya si toos ayaa marka qofka waxa loo arkay oxygen levelkiisa intuu marayo inta marka uu dhakhtarka sameeyo wuxuu u gudbayaa tan muhiimka ah markii COVID-19 laga hadlayo qofkii in laga qaado chest x-ray ama raajada sanbabada saan bay waqtay meeshaas kala qofka la geenaya hadduu istaagi karo hadduu istaagi karin sariirtiisa loogu imaanayaa waxa soo baxaya marka raajadaas oo kale ayaa soo baxaysa oo dhakhtarku arkaya intaas markuu dhakhtarka arko qofkiina uu wareysto ayuu wuxuu gaarayaa go'aamadaas uu gaaraya waxay tahay qofkan isbitaalka inaan jiifiyo miya mise waa inaan gurigiisa u diro marka yaa isbitaalka la jiifiyaa isbitaalka waxaa la jiifiyaa qofkii oxygen u baahda markii aan mashiinka hadaa intusayo qofka haddii oxygenkiisu 94 iyo wax ka hooseeya uu yahay oxygen baa lagu xiraa qofkii u baahdana waxaa laga fekeraa in isbitaalka la dhigo ama waxaa lagu khasbanaadaa in isbitaalka la dhigo waxaa jira dad aan oxygen u baahnayn laakiin xanuunku aad u saameeyey مثلا qof aan socon karin baa marmar noo imaada qof muruqihii aad u xanuunayaan qof aan dhaqaaqi karin waliba dadka da'da ah ayaa saasa markaas qofkaas oo kale waxa laga yaabaa in asagan la dhigo oo hadhowti waxyaalahan sheegi doono la siiyo waxaa jira mararka qaarkood qofku in laga dareemo virusku in uu meel aan sanbab ka ahayn u gaaray مثلا wadnaha dhiig ayaana sheegaya in dhiigga wadnaha hadday kor u kacaan ama markii la saaro ECG-ga waxa la yiraahdo oo wadnaha la fiiriyo in uu dhibaato gaaray haddii dhibaatadaas la arkana qofkaas kale waa la jiifiyaa marka go'aamadaas la gaaraa dabcan dhakhtarku markuu qofka arko ayuuna gaarayaa waxa kale oo si gaar ah loo fiiriyaa dadka uu virusku uu khatarta uu ku hayo marka waxa jira dad gaar ah oo haddii uu virusku ku dhaco aan u baqno dadkaas waxa ka mid ah dadka weyn qofka da'diisu hadday 65 iyo kor u dhaafto waliba ragga ayuu dhibaato badan ku haya oo 70% dadka aan isbitaalka ku aragno ama dadka la seexiyo ama dadka ay dhibaatada weyn ka soo gaarto ragga weey waliba ragga da'doodu ay ka weyn tahay
65 cudurrada qaar dadka qaba ayagana dhibaato ayuu u keenaa maalan dadka sokorta qaba dadka dhiigkarka qaba dadka wadna xanuunka qaba dadkaasna si gaar ayaa il gaar ayaa lagu fiiriyaa oo waxa markaas la go'aamiyaa in isbitaalka la jiifiyo haddii dabcan lamaradan soo sheegay ay lagu arko mararka qaarkood waxa laga yaabaa qofka inuusan intaas soo gelin baaritaanka uu na tuso مثلا dhiigiisu ay qofka aad u kacsan yihiin wadnihii in wax gaaray la arko raajadii markii la fiiriyo oo virusku uu aad u saameeyay qofkaas oo kalena waa la jiifiyaa marka haddaan u gudbo marka dadku saddexdaanay u qaybsamaan si guud haddaan u kala qaybiyo saddexdaan qaybood bay u qaybsamaan 80% dadka xaaladoodu waa fududahay guriga loo diraa markii la fiiriyo hadhowtina waxa laga yaabaa asbuuc labo inay ka boodaan oo ka socdaan 15% dadka waxaan iraanaa xaaladoodu waa culus tahay dadkaas oo kale waa la seexiyaa hadday xaaladoodu ay culus tahay laakiin oxygenka ay u baahan yihiin مثلا uusan aad u badnayn oo kale waxaan seexinaa qaybta guud ama general medical ward haddii intaas ka badan uu u baahdo waana sharxi doonaa intaas ka badan wuxuu u baahan doono qofku waxaan seexinaa qaybta sanbabada waxaa soo haray 5% waxa weeye dadkaan iraahno xaaladoodu waa halis ama naftooda ayaa halis ku jirta dadkaas oo kale waxa la geeyaa qaybta neef ku dhowrka la yiraahdo ama dadka ingiriiska ku hadla ay yiraahdaan intensive care ama al-cinaaya al-mushaddada qaybtaas ayaa la seexiyaa ayaga dadkaasi ayaga waxa la siin doonana waan ka hadli doonaa insha Allah taala waxa soo haray dadka la seexiyay qaybta guud la seexiyay sida hore u soo sheegay waa lala tacaalaa coronavirus ee wax daawo oo toos ah ma laha marka waxaan siinaa caawimaad guud ama kaalmaad sida xanuun baabi'iye oo kale sida xanuunada daawooyinka jabiya xanuunada qandhada daawooyinka jabiya qofkii aan aragno in wax bacteria ay jirto maadaama uu covid-19 uu virus yahay aysan bacteriyaduna aysan qayb ama aysan role aysan ku lahayn dadka qaarkood waxaa jira viruskii inuu ugu darsoomo bacteria dadkaas oo kale antibiotic baan siinaa waxaa la suraa dadka faleebo la siinayo biyo lagu siinayo ama biyo cusbala lagu siinayo si dadka enerjigooda loo soo ama nafaqo loo siiyo si enerjigooda qofka u soo kaco waxaa kale oo dadka lagu duraa oo sawirkan dhexda ku jira ka muujinaya daawooyin joojiya xinjirowga marka waxa laga yaabaa dadka inta Soomaalida inta qofka la tuso uu ka shakiyo maadaama anagu Soomaali markii la joogay aanan badana la isticmaali jirin isbitaalka qof kasta oo la seexiyo haddii aan islaanahay qofku dhowr maalin buu jiifanayaa waxa lagu duraa daawooyin joojiya xinjirowga maadaama qofku isbitaalka hadduu jiifo oxygenkiisa hooseeyo uusan dhaqaaqayn uusan cunto cunaynin ay sahlan tahay jirkiisa inay dhiiggiisu inuu xinjiroobo xinjirtaasna ay u gudubto sanbabada oo halis gelin karta qofka naftiisa u dhiman karo waxaan aragnay taasoo markii hore badnaan jirtay dadka uu ku dhaco covid-19 inay ka sii badan tahay ma 2 jibaar ama 3 jibaar marka aad iyo aad ayaa looga taxadaraa oo cirbadaas ayaa lagu duraa wixii intaa ka badan qofka oxygen ayaa la siiyaa oxygenka u baahdo hadday 4 litir 5 litir tahayna qaybtaasaa lagu hayaa hadday intaa ka badan tahayna waxaan u gudbinaa qaybta sanbabada oo annagana loo keenaa waxaan kaloo rabaa halkan inaan Soomaalida u sheego inaysan maadaama uusan cudurkan uusan lahayn wax daawo ah waxaa jira daawooyin tijaabo ay ku socoto oo dadka la siiyo qofka isaga ayaa idin la weydiinayaa haddii uu ogolaado ayaa daawooyinka la siinayaa hadduu diidana lama siinayo daawooyinkaas iyo haddii ay dadku su'aalo ka qabaana diyaar baan inaan ka jawaabo laakiin haddii aniga aan isbitaalka la dhigo oo la yiraahdo ma qaadanaysaa waan qaadan lahaa sababtoo ah cid og wax lagu daaweeyo cudurkan ma jirto dadkuna waxay ku daaweeyaan dalalka qaarkood mala awaalkaas ayaa hadda waxa ku socota tijaabadaas qofkii la yiraahdo ma ka qayb galaysaa hadduu aqbalo waa la siiyaa hadduu diidana lama siiyo hadduusan qofku awoodin inuu asaga jawaabana ehelkiisa ayaa lala hadlaa qof la iskama siiyo asaga ama ehelkiisu aysan aqbalin taasna waa muhiim dadku inay fahmaan oo la socdaan haddii aan usoo gudbo qaybta sanbada markiina loo keeno
qofka haddii oxygenkiisa uu bato oo oxygenkii sanka laga siinayo ka badan uu u baahdo annagaana loo soo gudbiyaa marka waxaan ku samaynaa qofka xabad ayaan u seexinaa wax la yidhaahdo pronin ayaan ku samaynaa sababta waxa weeye meelaha ugu badan ee uu saameeyo cudurka COVID-19 waa sambada ayuu wuxuu ku sameeyaa lahan ama inflammation iltihaab lahankaas ayaa wuxuu sameeyaa biyo ayuu sambada ku aruuriyaa biyahaas marka qofku hadduu dhabar u jiifo qaybta dhabarkiisa xigtee sambabada ayay fadhiistaan qaybtaas ayaan ugu muhiimsan sambabada marka waxaan samaynaa qofka waxaan idhaahnaa xabad u seexo biyihii waxay imaanayaan dhanka kore dhaymkii aad u baahneed marka ay neeftu ay kugu ceshato ayaad markaas waxaad samaynaysaa in ay biyo la'aan noqoto oo maxaa la yidhaahdaa ay hawadu gaarto oo qofkii oxygenkiisu markaas kor u soo kaco inta hadday shaqayn weyso qofkan waxaan ku xirnaa maaskan la yidhaahdo CPAP oo kale wuxuu sameeyaa hawo ayuu sii daayaa oxygenkiina ay la socoto marka qofkii hawadiisay furaysaa waxay furaysaa alveoli wax la yiraahdo oo mataqaana hawo mareenka hoose oo yar ah qofkii marka oxygen fiican ayaa jirkiisa gaaraya waxaan ka digaynaa marka qofkii in uu intaa ka badan u sii baahdo oo u gudbo intensive care haddii uu qofku intensive care u sii gudbo xaaladiisu waa xaalad culus oo maxaa la yiraahdaa qofka dabcan u gudbo qof aan anagu aan ka walwalayno marka waxaan sameynaa labadaas shay ayaan tijaabinaa annagoo intii hore aan soo sheegayna u sii wadna intaas ka dambe haddii aan la tacaali weyno waxaan u gudbinaa qaybta intensive care-ka ama qaybta neefku dhowrka la yiraahdo qofkii halkaa loo gudbiyo waxaan ku qoray maxaa la yiraahdaa guduud ayaan ku qoray meeshaas qofkii halkaa loo gudbiyo oo qof aan ka walwalayno cudurkan waa cudur dilaa ah cudur kaftana ma aha qofkii intensive care gaara 60% waa dhintaa dabcan ilaahay qofku u qoro ayaa dhinta laakiin 60% iyo ka badan meelaha qaarkood qofkii loo gudbiyo waxaan ka hadlayaa dalalkan hormaray oo mashiinadii haysta waa dhintaa markii qofka loo gudbiyo waxay sameeyaan qofkii way suuxiyaan mashiinkaas ayay afka ka geliyaan daawooyin ayay siiyaan waxay isku dayaan marka inta jirka qofkii viruskiisa uu maxaa la yiraahdaa ka baxayo oo daawooyin kale la siinayaan ay shaqaynayaan qofkii inay la tacaalaan waxaa dhacda mararka qaarkood qofkii intaas markaa siisay ka badan inuu u sii baahdo jirkiisa oo ay keliyuhu fariistaan marka waxay ku xiraan bahashan keliyaha lagu sifeeyo oo filterka la yiraahdo ayay ku xiraan mararka qaarkood qofkii ay keliyihiisu fariistaan annagoo u sii baqaynay qofkii la geeyo qaybta neefku dhowrka aad ayaan ugu sii baqnaa waxaa mararka qaarkood dhacday wadnaha wax gaarsiiyo qof dadka ay wadnahooda uu gaarsiiyo viruskuna 80% waxaa la dhahaa uu dhintaa marka waxaan rabaa marka ugu dambayn inaan ka hadlo xaalado culus ama su'aalo adag oo dadka Soomaalida ah ama qof kasta oo cudurkan ku dhaco ama ehelkiisa saameyn kara ama gaari kara ama taaban kara qofkii bukaankii oo markii hore laga yaabo inuusan afkii uusan aqoon dalkii uu joogay ayaan isbitaalka cidna u raaci karin oo keligiis noqonaya runtii waa xaalad adag xaalad cabsi qofka gelin karta waxyaalo badan ay isbitaalladu isku dayaan inay dadkii taleefanadooda u charge gareeyaan ama inay u geeyaan iPad dadkiisa kula hadlaan ama video call ay ku sameeyaan laakiin dabcan waa dareemi kartaan qofkii markii aad isagiina la tacaalaysid 10 kalena ay ku sugayso way adkaataa waxaa kaloo dhici karta in bukaankii xaalkiisa ka sii daro oo lagu soo waco haddaad ehelkii tahay oo lagu yiraahdo qofkii waa sii xanuunsaday waa telephone la isku diro waxaan u malaynayaa annagu aan sameeyno ka ugu adag dabcan qofkii ehelka ah loo dirana oga sii daran markaas kale waxa laga yaabaa in lagu yiraahdo qofkaas waxba uma qaban karno oo markii hore dhici jirtay isbitaalada dadkii yimaada inaan teleefanadaas u dirno laakiin dadkaas imaada oo aan idinla hadalna dhihi jirnay hadda ma samayn kartid sababtoo ah qofkii asagii baad u baqaysaa laftirkiisa hadduu isbitaalka yimaado inuu viruska qaado oo bukaan kala noqdo waxaana dhacaysa mararka qaarkood 3 qof inay maxaa la yiraahdaa kugu sakaraado oo mid intaad ehelkiisa raadinaysay uu kugu dhinto marka mararka qaarkood waxa dhacda qofkii inta wacdid inaad tiraadid
qofkii ehelkaagii ahaa Allah naxariisto waa dhintay marka teleefanadaas oo kale oo dhib badan ayaan marka qaar ku dirnaa waxaan u maleynayaa wixii ugu adkaa oo nolosheeda aan qabto inay ahayd qof inta waco inay raado qofkaad la hadlaysa 2 saac ka hor waa dhintay marka dabcan ugu dambeynna bukaanka inay geeri ku timaado ehelkiina ay tacsi u imaado waxaan su'aalahan adag ugu sheegayaa dadka Soomaalida ah maadaama aan arkay adinkuna aad aragteen qof walbana uu arkay sida loo yareysanayo cudurkan runtii cudurkan ma aha hargabku waxa la yiraahdaa kunkii hal qof ayaa ku dhinta cudurkan laakiin dalalka hormaray waxay yiraahdaan waxa ku dhinta 3.5 3.3 ku dhawaad 4 qof ayaa ku dhinta marka waa ka halis badan yahay hargab waa ka halis badan yahay cuduradii kale oo aan arki jirnay waxaan dadka ku wacdi gelinayaa in ay u hoggaansamaan talooyinka la siinayo oo ay u hoggaansamaan inay gurigooda joogaan ay raacaan talooyinkaas si looga hortago inay ayaga ama ehelkooda ama qof ay jecel yihiin oo dhibaatadan maro marka ugu dambeyn waxaan rajaynayaa inaad fahanteen cudurkan COVID-19 inuu yahay cudur halis ah uusan hargab ahayn inay muhiim tahay in la raaco talooyinka caafimaadka waxaan rajaynayaa inaad fahanteen waxa uu filanayo qofkii yimaada isbitaalka aad ayaad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Cabdisamed sida maarkno qiimaha badan runtii ee warbixinta iyo macluumaadka noogu soo gudbisay cudurkan COVID-19 iyo dhibaatooyinkiisa iyo dadku waxyaabaha ay runtii ay filan karaan markay tagaan isbitaalka oo inta badan markaa fiirisay dadkeena runtii iyo dad badan oo kale xataa kulli waxaad arkaysaa macluumaadyo qalad oo runtii la isla dhex maro dadku inay ka cabsi qabaan runtii inay isbitaalka xataa ay tagaan caawinaad xataa haday aad u liitaan inay caawinaad ay runtii weydiistaan iyagoo runtii in badan iska dhaadhiciyeen in maaragtay isbitaalka haday tagaan ay ku dhimanayaan marka runtii sida aad u soo gudbisay waxay ahayd si runtii aad iyo aad dadka uga maaragtay aan filayay inay ka siisay faahfaahin dheeraad ah in isbitaalka wax yaalla ay tahay runtii daryeel iyo xanaano iyo in ay dadku ay runtii ku dadaalayaan dhaqaatiirtu sidii qof kasta u yimaada iyaga ay maaragtay u badbaadin lahayn ilaahay baa runtii wax badbaadiya waxaan filayaa su'aalo iyo jawaab hadda ma haysano waxaan fiirinaynay maaragtay online-ka dadka maarkano nugula jira hadday suurtagal ku tahay inaad la sii joogtid inta barnaamijku soconayo waxaa laga yaabaa su'aalo inay gadaal ka yimaadaan aad baan jeclaan lahayn markaas waan kuu soo gudbinaynaa haddii ilaah yiraahdo ماذا سؤال قبتي عاشا؟ No, sorry. Okay. marka waxaan u gudbaynaa hadeertaan qaybteennii barnaamijka labaad muxuu ahaa aan ku soo dhaweynayno Sheekh Cusmaan Xaaji Yuusuf Sheekh Suuli oo asagu runtii ah sheekh culamadeena runtii aadka karaamada leh nala jooga wadankan UK magaalada London aanu muxuu ahaa jecelnahay inuu inoo iftiimiyo sida ay runtii ay muhiim u tahay in aanu raacno talooyinka maaragtay caafimaadka iyo dawladaha wadamada aanu ku noolnahay haddaan nahay qurbo joog haddaan Soomaali nahay meel kasta oo joogno si aan nafteennana u ilaalino dadka kale naftoodana runtii caafimaadkooda aan u ilaalino waanu maqalnay warbixintii uu Dr. Cabdisamed siiyay iyo cudurkani runtii inuu cudur halis yahay cid walbana kama daahna waa cudur dilaa ah marka diintu waxay ka qabto runtii dad badan baa waxay yiraahdaan ilaahay baa maaragtay qofka dili kare muxuu ahaa aniga wax kale iga sameynayaan oo maaragtay wax iyagu rabeen shaqooyinkoodii iyo howlahoodii iska watay runtiina maaragtay inay taxadaraan maaragtay ay maaragtay mararka qaarkood laga yaabo inay ka baxdo meesha waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo Sheekh Cusmaan jiro. Yeah, there's one question. There's one question for Dr. Cabdisamed. Yes. How do you self-isolate when there are too many people in the house? Dr. Cabdisamed mana maqlaysaa? ma Soomaalian ku jawaab mise English? Somali. Qofka Somali miya? Qofka waa Somali ha.
waa dhib dabcan qofka gurigiisa jooga inuu gurigiisa uu isu karantiilo laakiin talooyinka la bixiyo waxa qofka in qol gaar ah asaga loo sameeyo dadku cuntadiisa ay u geeyaan dharkiisa maalan uu ku rido 2 bac hadhowtiina uu meesha lagu dhaqo dharkiisa uu asagu u geysto dhaqo dadkana ay u baneeyaan sababtoo ah waxa muhiim ah dadka inuu qofku uu ka fogaade muhiim yani hadduu qofku asagu intuu soo baxo wixiisa asagu dhamaysto qolkiisa ku noqdo intaasna uu iska ilaaliyo dadka inuu la kulmo dabcan qofku saas ayuu self isolation ku samayn karaa aad baad u mahadsan tahay su'aal kale miyaa jirta Fandeq may okay su'aal aniga weydiin lahaa doctorka de suurkalta haye waa weydiin kartaa fadilta sheekh barakallahu fiik doctor mas'alooyinkan la sheegay oo ah dadka qoraxda viruska ku dhimanaya iyo darajaad haduu gaaro arintaas maxaa kan naga dhigi kartaa kuleelka horta fadilta sheekh waxaa jirta dood socotay intuusan dalalka kulul gaarin Afrika intuusan aad u gaarin inay dadka qaarkood ay yiraahdeen maxaa la yiraahdaa cudurku hadduu dalalka kulul gaaro uu baaba'aya dalalkaana ay yiraahdeen haddii samarka la gaaro cudurku waa si yaraanaya marka waxaan u malaynayaa arrintaas inay la xiriirinayeen virusyadii ka horreysay qaybta influenza la yiraahdo oo badanaa dadka ku dhaca bilaha qabow markii la lahaa saas oo kale u dhaqmi doonaa laakiin saas uma dhaqmin dood kulul ayaa ka timid wax la og yahay ma aha waxaan ognahay ilaa hadda dalal kulul oo humidity-gooduna ay sarreyso sida maxaa la yiraahdaa Singapore oo kale inuu ugu dhaco u gudbo sida halkaan oo kale u gudbo waad maqashay Djibouti hadda kor buu sii socdaa Soomaaliya si maalin ka dambaysa waa sii kordhaya marka arrintaas arrin ma aha la isku waafaqsan yahay ma aha waxa isticmaalay dad markii horena rabay inay maxaa la yiraahdaa ay yareeyaan in la xiro businesska ama economiga dalka maalin horena waxa laga yaabaa in arkaysay madaxweynaha Mareykanka oo isticmaalay iyo su'aalihii jawaabihii ka yimid oo ay ku timid shalayto inuu joojiyay inuu asagu dadka soo hor fariisto sababtoo ah maxaa la yiraahdaa dad dhakhaatiirta iyo dadka science-ka ayaa ku kacay la taliyihiisa hortiisa fadhiisay ayaa ku kacday marka waxay ku khasabtay inuu asagu ka noqdo wax la hubana ma aha wax la isku raacsan yahana ma aha marka dad Soomaaliya badan oo su'aasha ay weydiiyeen oo su'aalka yimidna waxaan ku iraahdaa waa su'aal muhiim ah laakiin haddaan Soomaali ahay ama haddaan dal kulul joogo aan jeclahay inaanba u baahnayn inaan ogaado sababtoo ah haddaan raaco talooyinkii waxaana iska yaraadaan inta ay wax lagula tacaala daawo lagu daaway ay soo baxayso iska yarayno ilaahay subxaanahu wa tacaala Soomaaliya kuma sii kordhiyee ay insha Allah tacaala la kaaftoomi doono laakiin maaha wax la isku raacsan yahay maaha جزاكم الله خير بارك الله soo dhawow Sheekh Usmaan aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa sida anaga la soo qayb gashay saad noo soo sharaftay ilaahay ku sharfo waxaan runtii jeclayn inaan diiradda saarno oon fiirino muxuu ahaa ka qayb qaadashada in cudurkan faafintiisa la yareeyo haddaan nahay qowmiyadda jaaliyadda Soomaaliyeed meel kastoo nu joogno iyo diintu waxay ka qabtay inaan noo iftiimiso insha Allah soo dhawow jazakumullah khayran ما شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله مركو هراء إله سبحانه وتعالى مهدله إن صومالي لغاه لو دادكينا أنو كالي أو دادك وعيك إله وحانك بري ميزانك حسنات كداماتي لغانا النصار حقيقة إسلام كمركات في رسيد إلهي بنادك وكرامي نفتان إلهي سبحانه وتعالى وأدون كان وأبورنا أصدق inuu adduunkan ku ilaaliyo ayuu ugu talagalay walidaalika waxa la xarantimay qofka naftiisa inuu dilo qofka inuu isdilo inuu qof kale dilo waa xaraam weey saas daraadeed ayaa haddana waxaad arkaysaa masaa'ibkan oo kale markay dhacaan islaamka laba arrin buu waa ku tawjiihiyey mu'miniinta ama dadka muslimiinta ah midka hore mid iimaani ajaanib iimaani ah oo qofka muslimka inuu ogaado markasta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u qoraya ku dhacayo qulna yusiibna ilaa ma kataba allah lana huwa mawlana wa ala allah falyatawakkal mu'minun inuu qofka aamino naf kastana ajasheeda inay ku dhimanayso oo qofka iimaankiisa markasta ku dhisaa taasna waxay keenaysaa waxyaabaha cudurkan kordhiya oo laga yaabo dadka aan muslimiinta ahayn inay dhib ka gaaraan walwalka ay qaadaan cabsidaas badan
عروق والو دمانيا أنا كفي عنه ما دام أن سنة هاي إيمانك إسلام كان نبري إن قف النف عن وقت يقدرين أو وقت لو دافين جانب كاس مركة واحد بس على جانب كهرتقة جانب كهرتقة إلهي سبحانه وتعالى يقول لي ولا تقتلوا أنفسكم نفتين هدلنا نفتان أماني قوتها نفتن waxay kamid tahay kulliyatul qams oo xifdigeeda in la ilaaliyo marka si loo ilaaliyo nafta waxa loo xarantimeeyay qamra loo xarantimeeyay waxa loo xarantimeeyay wax kasto aqliga daraagisa loo xarantimeeyay intaas waxay tahay naf ayaa lagu ilaalinaa shariicada islaamka walidaalka kulliyatul islaamka ama tirirkiisa oo shanta ah ay waxay ka tahay qayb ugu muhiimsan naf in la ilaaliyo waxa lagu hortagay marka jaanibka waqiiciga waxay tahay ilaa nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam gaarsiiyay uu leeyahay balad doo ka dhaco daacuun ama cudur faafa daacuunku waxa la yiraahdaa mararka qaarkood ma aha kan caloosha kaliya cudur kastoo faafa ay culimadu ku tilmaamaan oo dadka isku gudbi karaan in wuxuu leeyahay nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam irshaadaad uu siinaya iyo wuxuu siinaya si maxaa sameeynaa rasuulka allah markii su'aashaas iimaan karto wuxuu yiri balad doo cudur faafa ka dhaco wuxuu yiri falaa tadkhuluha galina baladkaas ayaa la tagin wuxuu leeyahay hadaa idinka joogtaan ha ka bixina hadalkaas wuxuu nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam uu nagu barayaa nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam in baladkaas aan joogna anaga macnaha hadii la yiri baladka ha galin cudurka uu tagin way naftaada ka ilaali hadii la yiraaho qaybta kale waxay tahay haduu cudurku ku dhaco baladka ka baxdid adiga waxay keeni kartaa inuu arintaas ay keento inuu cudurka faafisid oo dad kale gaarsiis marka haduu islaamka heer gaarsiiyay maanta magaalada haduu sheeyno ka dhaca in la yiraahdo aadin maxaa dhacay cudurka inuu kugu dhaca laga yaabaa haddii dadka shahaynana jooga la yiri oo muslimiinta ha ka soo bixina dadka kale ha u qaybinina halkaas waxaa ka cad islaamka inuu ilaaliyay in nafta la ilaaliyo walidaalika waagii cumar ibn khataab daacuunkaas dhacay ayaa waxaa dhacday nin saxaabi ah ayaa wuxuu ku yiri cumar ayaa wuxuu yiri jeeshka sham ayuu ka dhacay daacuunkii oo cudurka faafayay markaas wuxuu yiri jeeshkii galin markaas wuxuu ku yiri ma ilaahay qadarkiisa ka baqaysa cumarow naftu waa qorantay ma jeeshka halkaas geyn markaas cumar wuxuu ku yiri nahnu nafiru min qadarillah ila qadarillah naftigeedina asbaabta la imaano oo qofka inuu ilaahay dartiis u nool maxaa yeelay nafta nolosheeda waxay kamid tahay waman axyaaha fakaana axyaa naas jamiican naf bin aadi inaa nooleyso saas daraadeed arrintan iyo dhaqaatiirta cilmi ay nasiinayaan anaga oo ah in la iskarantiilo inaan dadka loo dhawaanin waa waxyaabaha nafta lagu ilaalinayo shariicada islaamka waxay keentay hadda waxaan la yiraahdaa anaga masaajidoona laga xiray gurihan ku tukanaa maxaa sababta aan guriha oo aqalad ugu tukanan waxay tahay in maanta aan la leeyahay cudur ayaa laga baqayaa inuu faafo tayib diinta islaamka ma qabta arrintaas ha waa qabta maxaa yeelay nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam waagiisii dhulka meel wadooyinka ma ahayn wada laami ah ma ahayn dhiiqa ahayd masaajidka nabiga kaleey ninka soo aadayo hadduu roobto waxa laga yaabaa inuu halkaas oo ku kufo walidaalika nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam ninka muadinku wuxuu amray in salaada lagu daro aadaanka in lagu daro sallu fi rihaalikum gurihiin ku tukada macnaheedu maxay tahay waxa la diiday marka in masaajid uu soo socdo oo liiqadaas ku jaba ama dhooqadaha meeshaas ku dhaco oo sinka jabta ama gacanka jabta lugka jabto ayaa la ilaaliyo fama baalka hadii hadda dhakhtarka soo noo sheegay la leeyahay nafta ayaa halis galayso oo intaas marxalad la marayo ilaa iyo qofka la yiraahdo boqolkiiba 60 haduuba intensive galaba in boqolkiiba 60 uu dhimanayo sidoo hadda noo sheegay mas'aladooyinkan marka islaamka waa xadida marka hore wuxuu leeyahay fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun haddii wixii diinta ku saabsanaa waa nala weydiinaya dadka culimada diinta yaqaana la weydiinaya ayagana dhaqaatiirta culimada arrintan ku yihiin ninka makaan muhandiska ama injineerka guriga soo dhiso asaga ayaa la weydiinaya fasalu ahla dhikri ahla dhikri ku ah saas daraadeed waxaa islaamkeena amraya haddii la leeyahay arrimahan oo kale xataa ninka sheekha in laga qaato maaha arrimahan oo kale sheekha waa arrimo sida u kaabiyo dadka u sheego waxaan ma dhici jirin ilaa laga rabaa laakiin cudurkan saameyntiisii ah ahla dhikrigeeda waa dadka dhaqaatiirta haddii ahla dhikrigeena leeyihiin maanta war arrintaas dhacayso marka Soomaalida waxa cajiib ah inuu qofka marka uu dheelitiri waayo labadan aayad oo ahayd qulna yusiibana ilaa ma kataballah iyo jaanibkii wiqaa'iga ahaa haddii jaanib caqiida ah ka aamintay oo walwalka ilaahay ka tiri oo cudurka hadduu kugu dhaco inaad ku sabartay ay tahay oo cudurkan haddii aad ku qoranta inaad ka kacaysid ka kacaysid haddii aad ku dhimanaysid jamcanaheeda maaha inaad tiraahdo quduu xisrakum nabiga calayhi salaatu wasalaam aayad quraan ku soo degtada quduu xisrakum qofka muslimka inuu taxadirkiisa qaato oo naftiisa tahluku ku ridin ayaa asalka ah saas daraadeed dadka jaanibka iimaaniga kale ictimaaday oo aan ka tegin nabiga calayhi salaatu wasalaam ninba
أو أيا وحو يري أور كان وحو يري بهلاس إنه سكدي إنه دبرو وحو يري النبي عليه الصلاة والسلام وحو يري عقلها ثم توكل وعلى الدنيا حولها هداك إلى السنين دورك كسي دايد وبهلا عنان هذا ترى لها ترى صارت أسكبح إدها يسمع هذا لا ميجا هذا استكتيد وهاي ويجا وجوارد أترى لها ترى صارت وجارس كودكتيد لها ترى صارت معها ما أترى نفتي وقرنتها قرتي لما نيسو جاري أسكو دقة حلولية ما هذا استشابه محيل أسبابت إن أنا أجيش ويقرنتها وإلهي أقسم ماشى كل منيس لكن أسبابتي يقف كمسلم كأنه لي ما تبوي أسبابته وحكم إذا ان دينتا ارتانا برتي هذا دينتا برانين سيتكون كرتا صلاه سيتكون كرتا صلاه الى عباده هي اسباب تدي وانا انا ابرتها وحي ركوعها وحي سجودها لكن الهامكم صدع الملح ولذلك ذاتك حكم مقن ان حديث النبي عليه الصلاه والسلام يجمع احدكم في بطن امه 40 اسوق عروفه afartan maalmood ayaa la kulminaa markaas wuxuu leeyahay nabi cali waxa loo qoray risqiisi waxa loo qorayaa ajishiisi marka ajish loo ka soo qaadanaya hadda qol had isku soo xira aniga aan risqi raasanin risqi ma imaanaysa mid risqi kama keenayso walidaalika waxa la doonayaa fas'u ila ilaahi subhanahu wa ta'ala leeyahay markuu ka hadlayo risq raasisni lama dhigin ilaahi tala saar kaliya ku imaanay laakiin wuxuu leeyahay famshu fi manakibiha wa kullu rizqi rizq usu'al wa famshu fi manakibiha ilaahi adduumina baarkeeda dhan ku soco ما إلهي سبحانه وتعالى كجبق ومركزنا واحد إلهي كسي رادي لكن إنا مال أسكف فريسا ولذلك وحنا ليه إن شرع الإسلام كا وحي حوجني سا نينك ما أنت بل وحنا لنا ورنينك تغاتير تعليم بحنا يان إلى أهل ذكر جاء وادد مسلمين وقف قرصونه هو ما تقدر قال حتى ما وحكوش شيء معايا له وقفك خبرك قاعدين يسد شرع الإسلام وحي وحددين ويا هني الثقة الوكرسونية مركب من مسلم أو أن ربنا عبادة إنه أذيك ما وحي كلتها إنه عبادة إنه كجوجي ورا محوك فايدة قال كبكتون لكن إنك مسلم كونوبر علمك ولذلك فإذا وين الله ذات المسلمين إن علمك إبرتان أغاتير النقدان إنجير نقدان أو كيمي كذا إبرتان حيالي مسائل إنك كان إيه كالسوني ولا قاعدنا يعني كو كله وحلا جيابا دت قارقود إنه فهمها أنت يعني دت كذب بيان أما الإسلام إن الواحد ما أنا إنساني وي إنسان على هذا الإسلام على هذا صدر نفتن إلهي سبحانه وتعالى إن لبت باديو ما أنت شرع الإسلام كا وهي قبتها حدي أنا أركو قف نف قال وبط قارس دان أركو أنا وحدي دوني أنا أنقله وبدي أنقله حتى صونك أدا صومنا صونك إنا يفرو أن نف إنا بتبادي أصون يفرو اللي بتبادي وحولي قرآن وحوليه فمن كان منكم مريض أو على سفر في عدة من أيام ورنيك حنوصلوا صونك إسكفر لليه ما حد عند نفسه على الدين هدي إلهي قرب إنه ضدك التكليف قربه ولذلك التكليف بالله يطاق محالوي وإلهي سبحانه وتعالى لا يكلف له نفس إلا وسعها مركا إن كديجتي إن تراهد أنا مايا المساجد تجايا إن ذاتك أسكت دوانها ما أنا ما دهن مساجد هذا حري كلمة دهن أدي أسباب إجرا ذاتك آسيا أفغاني وحال شيء جاي إن مساجد ذاتك متر أسكت جيران صلاة تكون أيام لكن ولا كلفوي وأسباب تنوالي من عبادة وقتين لكن أنا تراهد مساجد زحمة أنقليا أنت بدن مسلمين تلقى كل ما تاني أقانا dadka cudurku ku dhacay bana waa maahay masaajidda la xirna saasay tahay ingiriiska daanan waxa ku guuleysanay hay'adaha islaamka jooga inaan dhaqso u xirna masaajidada laakiin saasay tahay dadka had muslimiinta inta badan masaajidda ka soo qaadeen marka inaan qofka muslimka uu yiraaho cudur uu bareer naftiisa oo hadhowna uu yiraaho dadka cilmiga lahaa wax kama qaadanayo oo jaanibka iimaaniga ahaa faham lahaan uu geyso uu yiraaho waxaan waa qoriin maya naftaada waa disho walaal waxa leeyahay ninkii taqaatiirta taladooda qaadan waayo oo ku dhinta naftiisu dilay ninkii naftiisa dilana qiyaamaha wuxuu cadaab mutaysanay nabi kaleey sallallahu alayhi wasallam ninkaas wuxuu isku dilay ninkii sunca la siinaa qiyaamaha cadaab uu siinaya ninkii meel iska soo tuuray asna meel baa laga soo tuuray jabal laga soo tuuray sida xadiis inoo sheegay saas daraadeed waxaan leenahay fas'alu ahla dhikri ha ka qaadanina dadka aan isu waafajin karin cilmiga la weydiiya dhakhtarka haduu yiraahdo gabadhan ayada uurka leh waa la qalaya waan yeelina Soomaa waxaan anaa maxad casaan oo ogsoon cunuga inuu soo bixi karin cunug wadna garaaciis inuu baaba'ay say u diidantaa marka hadii lagu leeyahay cudurkan saasa la iskaga qaadaa ina aamintid ciqaab gaalada lagu soo dejiyo way ma yaa ku yiri ciqaab gaalada waa yaa ku yiri aw daliilkeedi marka inaad muhiimsantay ilaahay nacam ibtilaa waa imtixaan ilaahay adoomadiisa subhanahu muslimkii gaalka la imtixaanaya khayr iyo shar ay isku imtixaanaya laakiin inaad markasta asal waxaano ah aniga ay jeeda sheekha afar jumco shan jumco ma tukanin maxaa dhacay waxa ogsoonahay ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu leeyahay
laa yukallifu lahu nafsan illaa wuscaha waxaan ogsoonahay inaan nafteeda aan taaluug aan ku ridin dadaa waxay samaynayaan guryaha ku tukanayaan xaafada inay isku wacdaan ay wuxuu ku leeyahay kaali jimcaha xaafada guryaha ku yiri masaajidka waxaa loo xeeray in laysku yimaado islaan wadaad xaafada kala saaxiibka hadaa wacatay aad tiraa gurigaygaa soloota wiilnaa ku tukanaynaa waa dimbawday odagaas adaa dishay hadduu dhinto adigaa dembiga qaadanayo adaa dishay gurigaa ku jira lagu yiri ilaahay subxaana watacaala wuxuu jecel yahay yuriidu llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra ilaahay mana la jecla wax adag diinteennana ma cusla mana adka laakiin adiga ay markaa isku cuslaysid ayay kugu cuslaanaysaa marka waxaan kusoo gabagabaynayaa mar raba inaad waqtiga niga qaata inaad ku dadaashaan annaga oo dadka culummada maanta waxay culummo u ah dadka cilmigaan yaqaanaa u ah annaga markaan rabno xugun inaan samayno fiqi ah oo dhakhtar qusayso waxaan yidhaha dhakhtarka hala weydiiyo gabadha markay soonka furaysa ee tidhaaho soonka ma sheekh ma bannaan yahay inaan soonka ka tago waxaan leenahay nin dhakhtar maa ku yiri mas adaa dareentay hadduu dhakhtar ku yidhaaho luu kalsoon waxaan leenahay soonka waa furaysaa maxaa dhahay asaga ayaa lagu dhisay xukunka haddii uu qofku uu yidhaha anaa sooma maanta laakiin waa wareeran waxaa leeyahay asna iska fur laakiin in wax takhayulaad la iska sameeyo oo la yidhaaho walidaalika ahlulilka maanta culammada cilmigaan baratay khaasatan dadkeena muslimiinta sida doctorka hadda khayr allah siiyo sida wanaagsan noogu sharxay in la dhegeysto oo la yidhaaho adig ayaa maanta ayaa arrinta caalim ku ah talooyinkaaga qaadanaya wuxuu ka faa'iidaa male inuu ummad wax gafiyo wuxuu ka faa'iidaa malaha inuu naf dilo bal nafam uu badbaadinaya ilaahay subxana wataala waxaan ka baryay dadka inay fahamkaas oo kale yeeshaan oo jaanibka ka hortagga ah maxaa yeelay waa jaanib muhiim ah waxa lagu sheegayo cudurkan haddii lagu leeyahay faafidiisu dadku meel ku kulmaan weeye kulanka in la kala fogeeyo soomaalina cajiibaan haysa dadka soomaalida nacam iimaankooda waa fiican yahay laakiin iimaanka aan lahayn cilmiga aan lahayn mushkiluu leeyahay waa in qofka muslimka ah oo labada isla darada maxaa yeelay salaadina kama baaqanin bal guryahan ku tukannaa reerihian la tujiyaa ilmi carruurteena la tukato waxaan nicmo kalaan heli karnaa helaan casa an takrahu shayan wahuwa khayru lakum waxaa laga yaabaaba inay ehelkii iyo usradii isku soo laabatay ee faa'iida u tahay ilaahi subxana watacaala maalmahan yar ilahay waxaan ka bari cudurka inuu naga qaado laakiin maalmahan yar cudur daaha ma jira ilaahi subxana watacaala cudur daawo u keeni male daawadan waa la heli doonaa nacam dadka rabta wuxuu yiri weli wax lama hayo laakiin anaga waxaan aaminsannahay ma anzala allahu daa ila anzala macahu dawaa calima man calima wajahil man jahal siduu nebiga noo sheegay wuxuu yiri ilahay cudur ma soo dejiyo ilaa daawadiisa hala socoto laakiin waa test yaa socdo waa la is imtixaanaya marka ilaahay naga dhigo kuwa testiga ku guuleysta oo kuwa imtixaankaas yar ilaahay ku liibaaniya maqlana talooyinka dadka ahlu cilmiga inoo soo jeedinaya oo dhaqaatiirta ah in la kala fogaado haddii aad dididna naftaada tahaluku ku riday naftaada dishay ninka naftiisa dilin cadaab ayuu galayaa wallahu aclam insha allah khayran nidajay baarak allah جزاكم الله خيرا شيخ عثمان aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa sidii fiicneed aad u taabatay qaybo kala duwan oo dhibaatooyinka cudurkan iyo saameynta ku leeyahay iyo sida mujtamacu inta badan ay u fasirtaan ama ay maaragtay runtii ay iyagu isaga dhaadhiciyaan waxyaabaha diinta la xiriira waxaad inoo sheegtay laakadoo kale wadamada qaarkood inay masaajidada ay sameeyeen laakiin ay sameeyeen salaadii ay sameynayaan laakiin waqtigii masaafadii la isku jirsan lahaa oo kale la sameeyey kasoo qaad qof xanuun qaboo kale hadduu uu yimaado inkastoo masaafadii ay xoogaa isku jirta haddana masjidka marka lasoo galayo marka laga baxay iyo xataa inta loo tukanahayo ma keeni karto soo ma keeni karto dhibaato taas dhakhtar cabdisalaam xataa laftigiisa waa ka qayb qaadan karaa dooda waa inoo furan tahay laakiin waxaan ka fikirayay markaas tiri oo kale dadkaasi hadduu qof xanuunka qabo kale oo isagoo is ogeyn siduu dhakhtarka inoo sheegay waxaa laga yaabaa qofka isagoo cudurkii qaba haddana inuusan haysanin calaamadihii xanuunka uusan haysanin intii muddo ah marka hadduu marka dadkii kasoo qayb galo oosan sankiisi wixiisana daboolnayn oo kale ma keeni kartaa marka in cudurkii qofka uu dadka kale u gudbiyo نعم أنا مركان له مساجد مسافة مثالنا وسوق قاتل لكن وحكستو كله هردك على سمية وسنك ولا حرتي حتى مساجد قالوا بكل سوق قالوا وحبا لبوا فيها ذاتك إمكانيات كاسلة وإمكانيات كاسلة عن كهذا لكن إمكانيات توجرين صلاة ولا قلت يا مركز كوريا لو قلت كني وصح وصح كسقد أسكو كلام حقنا هذا UK ما شاء الله علماء رنتي آدي آد بي حل isaga saareen aniga hadda magaalada Leicester oo kale aan ogahay yani way ku xiran yihiin guddi baa la sameeyay culimada masaajidada oo dhan ka dhaxeeyo iyo oo ku xiran maaragtay isagana maaragtay muslimka maaragtay dadka aasida u qaabilsan
guddiga u qaabilsan asagana ku xiran marka waa la iska warqabaa runtii aad marka haddaad arrintaas aad xoogaa yara inoo iclaamin lahayd waxaa laga yaabaa waddamada kalena inaan waxyaabahaasi ka jirin oo kale inay tusaale u noqon karto xataa ay ka faa'iidaysan karaan iyaga sida runtii UK oo kale ay aad maaragtay isugu xil saartay London oo kale aan ognahay inuu aad iyo aad mujtamaca Soomaalida ugu badan yahay asaga laftigiisa waxaa laga yaabaa caqabadihiisa inay asaga laftigiisa iska jiraan dhinaca aaska dadkii waxay ka walwalsan yihiin qofkiisa iyo isla markaan aysan aasin karin ama dadka u tagi karin usoo tacsiyan karin haddaa bal arrintaas iyadan xoogaa inoo taabatid masalada su'aalo dhowrna waana laga weydiiyey xaqiiqatan mid ugu horeysa masalada oo ugu daran waxay tahay aaska dad muslimiina aasaya oo aaska waa fardi kifaaya weeye sideedaba janaasadaba haddii xataa qaar ay ku tukadaan dadka kale way ka dhacaysaa salaada inkastoo qofku jecel yahay inuu qof dad badan ay ku tukadaan haddana waxaa bannaan qofka asagoo gurigiisa jooga inuu salaad janaasa ugu tukado waxaa bannaan in Soomaaliya dad loogu diro oo la yiraaho hebel waa dhintay salaad janaasa loo tukado salaad al-ghaib ay sharciyada bannaysay ka annaga inay ogeyd waxyaabahan oo kale inuu dhacaya qofka saas oo kale dad yar ku tukadaan in meel kale lagu tukan karo salaada ghaibka sidoo kale masalada in group la wada duugo waa bannaan tahay waa soo aroortay waa dadka waan ka wacyi gelinaa oo inay ka walwalin qof kasta camalkiisa la soo baxaya qiyaamaha shardi maaha god kaligiisa gala dada god gelina diyaarada iyo shil ku dhinto la arkin hilibkooda la arkin marka taasna waa ka wacyi gelinaa in habkii u duugayeen hab wanaagsan weeye oo dadka in la wariwaagii hore dhulka adkaa waa la isku saaraya dadka markaasaa ninka xaafid quraanka ninka kala hormaray la dhahay laakiin hadda waa la dhinac dhigay waa loo kala gooyey calaamad waa loo yeelay markii qabriga si wanaagsan u sameeyeen qoladaasna waa qola naga soo wacday waxaa jirta dad ku mashquulay inay meedka inay qaataan hooyooyin ka dardaarmaan waalidiin yiraaheen meedkeena waa la qaado waan u fadwoona inay la qaadi karin meedka oo wasiyadooda markaan oo kale aan la fulin karin oo meeshii lagu duugo balse ay falli badan tahay qofka magaalada ku dhashay inuu ku dukanin nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii madiina lagu duugay uu ku yiri laytahu maata fi ghayri madiina meel kale inuu ku dhintaa fiicneed qofka waxa fiican inuu magaaladu ku dhashay ma ahna magaalo kale uu lagu duuga aasa maxaa yeelay wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo tirinayaa intaas masaafo oo ajar ayaa loo tirinayaa maadaama uu magaaladiisa kasoo fogaaday waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin dadka wacyigelinta oo dadka qalbiga loo dejinayo sidoo kale masaa'ilka kale oo muhiimka ah oo aan dadka u sheegno waxay tahay kaalmada dadka in la kaalmeeyo oo la isku tago meydkaas oo kale haddii ay dad insulation maadaama oo la sameeyey guryaha lagu xiran yahay dadka waayeelada in la xiriiro london waxyaabo badan la qabtay ilaahay subxaana watacaala miisaanka aanoo saaray insha allah inta qabato aad aad baa mahadsan tahay sheekh cismaan waan ogahay maaragtay runtii waqtigaaga qaaliga ah su'aal ma weydiin karaa sheekh yes soo dhawo cabdisamed dr cabdisamed soo dhawo fadiilatu sheekh waxaad taabateen jawaahir in ay isxilqaameen culimmadii Leicester London kuwa Birmingham waxaa laga yaabaa inaad wada maqasheen sheekh culimmada Soomaalida ka mid ah ee masaajidka Basiila ee Finland cod uu duubay oo wacyigelin ah marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi waxaan aaminsanahay intaan ka arkay culimmada Soomaalida ee joogta Ingiriiska iyo intaan ka warqabo Finland iyo Sweden inay doorkooda ay ka soo baxeen maxaad kula talin lahayd culimmada Soomaalida ee dalkii jooga maxay kula tahay doorka ay leeyihiin waqtigan inay u qabtaan ummadda Soomaaliyeed maadaama rasuulku yiri kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi ayna yihiin dadkii uu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxaad tihiin warasatul anbiya inay yihiin dadkii nabiga dhaxlay sallallahu alayhi wasallam maxaad kula talin lahayd culimmada Soomaaliyeed ee dalka jooga maxaad u malaynaysaa inay yihiin inay tahay doorkooda ay u qabanayaan waqtigan ummadda بارك الله فيك دكتور إلهي كبركي ودورك علماء ودور مهم إخواني آد دور مسألة عذر كان كلمة هنا مركز أمضى مجتمع وحي دور مهم يوجران وإلهنا ويدينا يبري إنه دور كي توجيهها مسألة أنا قال مركز اعتمادنا وحن نريسي هذا كي يكون ترتبع إنه ويديان علماء مركز هو فعل كرد فعل وليه معايا الحكم وعليه لما أجان كرو وعليه الحكم على شيء فرع عن تصوره قاعدة سمعتها قفك أنت وحم حكم كرو إلا مركه هرلو تصويري waxay tahay markaas wuxuu dhigi karaa waxaan waa banaayihiin ma banaana marka inay dadka caamada ah ay hadalkooda ay yeelin culimada ee dadka dhaqaatiirta ay la xiriiraan aan ku waninayaa culimada Soomaaliyeed meel kasta joogto markii arkaan cudurkan loo sharxasa amal hadda noogu sharaxdo kala markii ogaadaan
inay xukunka ay saaraan in ay tahay in la kala fogaado in naf la badbaadiyo inay doorkooda ay qaataan mushkiladan culimada masaa'il waxaa jira la isku khilaafi kara iyo masaa'il la isku khilaafi karin tan oo kale maaha masaa'ilka la isku khilaafayo maaha maxaa yeelay naf ayaa la badbaadinaya waxaan ku waanaya marka inay iska dhigaan meel hadday group iyo waxba yihiinba ama meelo kale ay leeyihiin inay tan oo kale ku midoobaan ay yiraahaan war naftaan si loo badbaadi kara maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala in naftiisa la badbaadi waa qof nolol hal ninkii naf nooleeya waa asagoo intaasoo naf nooleeyey sida aayadda qur-aanka waman axyaaha faqannama axyaa naasa jamiican marka waxaan ku baraarujinayaa inay la xiriiraan fatwada fardiga in la dhaafo oo ah qof kasta maxaa yeelay sheekh kasta haddii gooni loo fatwadoo warsado waxay isaga la tahay ama wuxuu ku binaynayaa dhacda walidaalika inta badan waxaa laga yaabaa xataa dadka diidan dhahaya waxay ku bineeyeen tirada dhimashada fiiriyeen tirada dhimashada in qiyaas lagama qaadan karo shareecada waxaa laga hadlayaa falka uu gaarsiin karo cudurkan muxuu yahay hadduu hal qof ku dhiman karo dadka dhan waa inay is ilaaliyaan weye laakiin haddaan dhahno wallahi soomaaliya intaasoo kun wey 20 le maraysaa ama 4 maraysaa macnaha waxaan sahlanay nafta 20 kaasaa sahlanay waxaan sahlanay 10 ka dhimatay bal dadka kale soo socda ma naqaan marka waxaa takhtarka wuxuu noo sheegayaa dadkaas dhintay kaliya maahane waxay arrintii umaan kartaa dadka kale walidaalika waxaa arkaysaa markay qabuuraha aadayaan afka uma xirna asbaabta mala imaanayaan naftooda tahluku ku ridayaan marka culimmada waxaasoo kale inay ka waanayaan khaasatan waqtiyadan oo kale oo culimmada warkooda la dhegeysanaayo oo bil barkaysan ugu jiro inay dadka ay u sheegaan halista ay leedahay ayagoo weli tala ka qaadanayo arrinta takhaatiirta taas horta waan ku waaninaya doctor aniga su'aalaha laftigay inaan ku weydiin rabay oo London nagu soo naqnaqatay oo ahayd meydka ma laga qaadi karaa cudurka ma gudbin karaa Dr. Cabdisamed mana maqlaysaa waan ku maqlaa kolba inta uu qofku uu neefsanayo ama neefta ka soo baxayso dropletkaas ay ka soo baxayso uu gudbin karaa marka maadaama cudurku uu cusub yahay lama oga inta uu meydkan uu gudbin karo marka waxaan u malaynayaa inaad aragtay in dadka lagu xiro maxaa la yiraahdaa body bags lagu xiro aysan wixii ku jira aysan ka soo bixi karin maxaa la yiraahdaa markii la dhaqahayana dadka dhaqahaya loo xiro maxaa la yiraahdaa mask loo xiro gloves loo xiro oo sidii hore waagi hore dabcan marka dadka hore la dhaqi jiro gloves waa la xiran jiray mask loo xiro waxaan la yiraahdo maryahan la isku ilaaliyo inaysan wax ku soo gudbinna loo geliyo marka lama oga inta uu gudbin karo waxay u badan tahay dabcan meydku markuu waqti badan uu sii joogo in chaniska uu gudbiyo inay yar tahay laakiin si looga hortago chaniskaas yar saa u sheegtay hal qof in dhibaato soo gaarto maadaama ay wax weyn tahay si looga hortago in maxaa la yiraahdaa dhaqitaankeedana si gaara loo dhaqo hadhowtina body bag lagu xiro marka waxaan u malaynayaa inaan ka jawaabo su-aashaada baarakallahu fiik jazak aad baa u mahadsan tahay Dr. Cabdisamed su'aalaha nooga yimid dadka maarkano nagala xiriiraya online-ka aan jeclaan lahaa inaan kuu soo gudbiyo Sheekh Cismaan qofka wuxuu soo weydiiyey ducooyinkii adkaarta habboon ee la akhrisan karo cudurrada faafa qof kalena wuxuu soo gudbiyey su-aasha ah maxay dadku samayn karaan oo ku bedeli karaan yani cibaadooyinka ay ku bedeli karaan cibaadooyinka ay ku samayn jireen rabitaanka sida taraawiixda oo kale ay imaanayaan muxuu ah masjidka ama salaada jimcaha oo kale maxay ku bedeli karaan su-aasha saddexaadna waxa weeye maxaan samayn karnaa yani salaada janaasaha yani haddaanan inkastoo xoogaa aad maaragtay arrintaas aad taabatay laakiin haddii qofkii uusan jooginin meeshii janaasada lagu tukanahayay sidee bay samayn karaan ayaguna janaasada baarakallahu fiik marka uu horeys ducooyinka way far badan yihiin ducooyinka uu asaas u wanaagsan waxa bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiul 'aliim oo xisn mu'min ku soo aroortay allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal judan ducada wax kastoo aad ku ducaysatid masalada kale oo ahayd su-aasha kale maxay ahayd igu soo celib su-aasha kale waxay ahayd maxay samayn karaan yani cibaadooyin ahaan muxuu qofku samayn karaa cibaadooyinka dadka waxa weeye anaga waxna hadda laga mamnuucay oo inta badan oo ragga khaasatan ay waxa weeye jamaacada weeye jamaacadana gurigan waa lagu oogi karaa ajirkeeda leedahay ajirka masaajidka oo kale ay leedahay
marka waxaan ku talin lahaa in guriga jamaaca lagu sameeyo oo qof kasta meel gaar ah ama salootada ha ahaato mar kasta salaada isla tukadaan inta guriga ku jirta inay isla tukadaan hadday rag ay yihiin rag ay u badan yihiin oo qaangaar ana حتى صلاة الجمعة وكتوكن كران جورج معايا النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت الأرض مسجدا ملك كستا كوميونيتي شباب لقطو كذا مركا صلاة عدد كذا الله يطمن يشرد معها صدح قفوض وحي كبر صلاة الجمعة جورج وكتوكن كران غير كاس دكنا كهلا يا كما هلا إن دتك يسوع عضان معايا العذر كسببت المساجد الوجود وحيتها دد أو مالك كالدو لا أسبوع معنا مركا إن لا درس كأنا وعلمها لكن غير أو له أينا ما جمعها هالقفة دو استاجوا أركان جمعها وأسكف ضدها إنه قفك النبي كوصلي عليه النبي إلهي أمانه النبي عليه الصلاة والسلام كوصلي وحتى صومالي كوعدي أم إنجليش كوعدي إلى إله لا قبقه وفرس ودن سوء استاجوا ومرلبات دنا ودعاء آخرية وتوجين كرا وهذا جمعة سنة يجنا وساس وكل عيسى وحكمة النوازل تلقوا بنهي نقولها لقوا تكذا وحكى لا أيقوا أننا يقفك عذركم الكوب بدن يهي إن لبضي النبي عليه الصلاة والسلام سلق جيسا وردي سلق النبي عليه الصلاة والسلام إن لبضي استغفار لبضاس wuxuu noo sheegay ilaahay inuu qofka badiya inuu dhibka ka qaadayo ilaahay wuxuu leeyahay wama kunna mu'adhibiina wa anta fiihim macnaha ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay nabi maxamed inta adii joogtid annaga ma cadaabayno cadaab am cudur ha ahaada cudurka naftiisa cadaab uu noqon karaa wuxuu leeyahay marka culimada waxay ku fasireen haduu maadaama nabiga hadda naga tagay ummadiis waxyaabaha oo amnigu ah waxa kamid ah iyadana inay salligiisa ay badiyaan waa asagoo la joogay la mid tahay النبي عليه الصلاة والسلام أنت يصلينا يا إلهي إبن تصايب إيه وما كنا معذبينهم يستغفرون آياتك إله المعذبة تكون استغفار هاي لا بس نبضي استغفارته يصلي النبي عليه الصلاة والسلام وحيابها إلهي قربة يقال كمتها سيدو كلا وحيابها قربة إلهي قال وحكمتها صدقات إن نبضي وذاتك هاد مساكين تا إفطار وصائم ذاتك وحلو درك كلا ومداس يبعتي سن وإلهي سبحانه وتعالى لفته وطرق لو بقاي وقاركود نجارب إن أيضا إفطار كاس لو درو وحكمته وحيابها إلهي وكشف هم ينوي قاري كرب سؤال حكته هي صلاة جنازة هي نعم صلاة جنازة إذا فرض كفاية جماعة اللي توكن كرا كلا اللي توكن كرا أنا هذا ضد بدنا صاحب أو أنت كقيب قلي واي جنازة جورجي أنا جوا أوتوكذي أو صلاة القائمة أوتوكذي أحبها مركا قفك كل جزء توكن كرا أو كلا هدارتي أن هالقف أفر قفوت أو نيسن كرتا أم صدق قفوت وقرابة أي هل صلاة توكن كرتا ما إن متكسر صلاة توكن يسد هدارت عرضت يد المهد أنا أسوس في كرتا دي كرتا جماعة هنا كتوكنينا كلي هنا وتوكنينا وحكمة اليسر الدين تاني لا هاي إنه قفك مركز تأجر وهيري كرا معايا لصلاة الجنازة أدنى أجر يقوت هاي أيضا أجر قفك ميت كان أجر يقوت نعم سؤال كلو هذا صوغ شيء سؤال ugu dambaysa way Sheekh Cusmaan aad u mahadsan tahay waxa weeyaan janaasada wali ku shaqo leedahay waxay leeyihiin dadku ma ku tukan karnaa muxuu ahaa online lakada kale dadka dad waa aragtay ehelkii oo dhan waxay kala joogaan adduunka dacaladiisa waxyaabihii aan dagaalada ka dhaxalnay ayay ka mid tahay marka dadkii oo dhan oo adduunka dacaladiisa kala jooga misla tukan karaan hal mar oo live streaming lagu sameyn karaa ama Twitterka ama Facebooka ayay weydiinayaan oo mas'uula tukan karnaa anagoo isku wada xiran yani مسألة مسألة علماء منازلة وهي بعض علماء أي بنيين إن ساسو كلو تككر لك أنا مركز تحايل إلى أرتاس معي الوحيكين يسا تقديمك إمامك إمامك أنتو كاجرة أنتو كاجرة مركو حفي عن مادام لو تكون كلمة إن لسكم مشغولين إن جماعة لو تكذو ما قالك كستو أم قالك كستو ماشي جوك تقول جوك تجارها وتكتو أونلاين كشرد معه هذه أبا ما سنتهي نش عثمان haddii ay waqtigu ku saamaxay waana la sii joogi kartaa dhutadii gadaasha waqtiga barnaamijku ku dhamaado su'aalaha jiraan dadku iyagana aan sii ururinayna haddii kalena aadan waqtigu ku saamaxaynin waanu ku fasaxaynaa insha Allah laakiin aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga ayna soo siisay waxaan u gudbaynaa hadda qof kale oo inagu xiga maanta waxa weeyaan waa Caashe Raaga weeyaan runtii gabar runtii aad iyo aad door uga qaadatay ururka la yiraahdo Dream Chaser Youth Club oo Birmingham ka jira oo runtii dhalinyarada maaragtay u istaagay in iyagu maaragtay ay wax la qabtaan oo barnaamijyo u sameeyaan hadeertaan u istaagtay in ay maaragtay u sameeyaan dadkii uu saameynta uu ku sameeyay cudurkani oo ayagu aan guryahooda ka soo bixi karinin inay maaragtay u sameeyaan waxyaabaha mucaawanada u baahan yihiin Caasho aad baan kaaga mahadnaqaynaa waqtiga qaliga ah ee soo siisay marka adigu marka hore xogaa yar aad ismaarkno dadka isbartid
dabeedna aad maaragtay aad inooga warrantid waxyaabaha aad qabataan iyo waxyaabaha aad ka samaystaan barnaamijkeena soo dhow maad maqlaysa marka ugu horeysa horta waa ku maqlayaa haa si fiican maasha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiina magacaygu waa caashe cali raage hooyo soomaali baan ahay iga raalli ahaada af soomaaligayga ma waacan si fiican uma wanaagsana so I'm trying my best insha allah to express myself insha allah waxaan deganahay magaalada Birmingham gaar ahaan meel la yiraahdo Bosley Green and organizationka aan ka qayb galay waxa la yiraahdaa Dream Chaser Youth Club professionalkayga waxaan ahay football coach and caruurtan ka caawina kubadda iyo waxaan haysanaa imikadan youth club oo last year furanay runtii sanadka dhan waxaan hooyooyin badan baan la shaqaynay oo English class hadday tahay advice and guidance hadday tahay caawitaanka dhinaca booliiska hadday tahay dhinaca maxaa la yiraahdaa schoolka oo hooyooyinka ka caawino laakiin COVID-19 markay dhacday wax walba way kala daadatay runtii inaga ourself waxaan maynoo soo marin weligeen ma garanaynin waxaan sameyno waan soo adeegtay dadka waxaan ku yidhi soo adeegta wala soo adeegtay laakiin anigina gudaha isku xiray laakiin after 1 week waa laysoo wacay caasha cuntaan cunuma haysto dad baa Norway kasoo guuray aan weli isdhiibin oo weli waxba lagu bilaabin runtii aan isku qalqalay wax yar maadaama waxaan I don't know how it goes ba waxaan islahaa waan tijaabinaya sidaan u bilaabi doono waxaan marka group one haysana WhatsApp groupkii baan hooyooyinkii aan ka dalbaday caawitaan iyo inaan shukri la khayr badan ha siiyo from Dairy Foundation iyo Avicina Schools hablahaas ayaan groupka ka wada hadalnay waxaan sidaan u caawin karayna then waxaan bilaabnay inaan adeeg intaan lacagtii baa donationka horta bilowday donationkii markay bilowday waxaan bilaabnay inaan cuntada u soo gadno reerkii aan albaabka u sii dhigno maadaama lacag haysanin oo waxba haysan caruur yaryarna guriga ku nool yihiin marka sidii ayaan u bilaabnay ilaa imikadan oo waxaan gaarnay ilaa 30 reer ayaan caawinayna so far 30 reerna waxay yihiin waayeelka ku jira waxa ku jira hooyooyinka oo single motherka oo banaanka u soo bixi kari waani marka waxay noqotay qayb kala 3 qaybood bay noqotay qayb ugu horeysa waxay tahay waa hooyooyinkii oo wadan kale ka soo guuray oo waxba haysanin qaybna waxay tahay islaamihii oo waayeelka oo ima garanay sida lacagta kaashka u soo bixin karayaan qaybna waxay tahay dad oo lacagtooda haysanin laakiin because of the risk health risk ay leeyihiin banaanka ma soo bixi karayaan marka online-keena ku soo shubayaan waan u soo gadaynaa albaabkan u sii dhigayna marka inta kalena waxay noqotaa dad baa jirta oo volunteer ilaahay khayr ha siiyo masaajidka Al-Nuur iyaguna waxay soo dirteen volunteer imikadan ayay waxay raadeen maxaan ka caawin karayna marka the more sidaan u sii sameynayno the more volunteer we have inamada ila shaqeeyana ilaahay khayr badan ha siiyaan waqtigooda iyo iyaguna reer bay leeyihiin laakiin they take all the time inay shoppingka and waad arkaysan queuega itaala shopping is the long queue alhamdulillah at the end of the day dadkii wixii aan gaarsiin karayna waan gaarsiinayna ilaahay awoodiisa maasha allah caasha aad iyo aad baa u mahadsantahay ilaahay jaxsanaad badan ha kaa siiyo dadaalkaaga adiga iyo inta kale oo ku caawinayso oo iskula mashquulsan tihiin maxay yihiin caqabadaha ugu badan oo idinka hor yimid yani challengeska idinka hor yimid inta hadda hawshan ku mashquulsanay the challenges horta one challenge anigu I find it very difficult is to standing on the long time and then shopping ka markaad gashi waxaad helaysa laba wax baad helaysa adigu intaad soo taagnaatay intaasoo reer baa ku sugaya meel baad supermarketka hal supermarket aad gelaysa laba shay baad helaysa labada shay haddana inaad supermarket kala gashi it's time consuming although hataa in dad badan joogtiin wixii aad rabti ma helaysi midda kalena the donation there's no money in the account you feel like dadkii way kusoo wacayaan
waxa korana waxbaan kaa baahanay adigana ma oran karaysid there's no money in the account because you promised them something you're gonna do it but and then waxba ma haysati is kind of like a really difficult it's kind of you throwing things on people's face and it is really difficult but alhamdulillah we're gonna overcome it inshallah masha Allah su'aal ayaa dadka ay soo weydiinayaan waxa laga yaabaa dadka hadda muxuu ahaa guryaha ay ku xiran ilmihii guryaha joogaan iskuulaadkii waa xiran yihiin marka caqabado waaweyn ayay waalidiin intooda badan ay runtii ay la soo gudboonaatay marka su'aasha ay soo weydiiyeen waxa kamid ah sidee bay waalidiinta ama hooyooyinka ay u caawin karaan carruurtooda ayaga markna waxbarashada guriga marka inta ay joogaan hadda iskuulaadku xiran yihiin iyo midda kale iyada laftiga la xiriirta waxa waaye ma u malaynaysaa iskuulaadku inay sameynayaan yani intii tabartooda dadaalkooda ah sidii markana u caawin lahaayeen carruurta intay guriga joogaan waxbarashada ay usoo gudbinayaan gaar ahaan dhinaca marka la fiiriyo waxyaabaha la dhaho shaqo guri afsoomaaliga loo dhaho laakiin englishka homework caawinaad markana ku filan ma ka helaan iskuulaadka so far inagu imikadan Birmingham magaalada Birmingham waxa horta groupkeena haddaan ka hadalno we trying to introduce inaan schoolkaagina wax ka cawsan karaysa homework carruurtaada waxa jirta online Google kaaska classroom kaaska isaguna oo schoolka offer gareeyeen but I don't think in hooyooyin Soomaali oo markii ugu horeysay language-ka dib u ahaa inay soo sameyn karayaan it's going to be a very difficult and midda kale waa challenging weeyaan ilmihii adigii af Ingiriis si fiican u garanaynin oo ilmihii ku leedahay wax ku baro I feel like hooyooyinka Soomaalida iyo abooyinka waalidka Soomaalida dhammaantoodaba it's very difficult to homeschooling at home midda kale I think inay garanaynin xuquuqdooda xitaa kuwa lunch box-ka haysta schoolka ka cunaya inay free lunch box-ku schoolku yaalo oo ka soo qaadan karayaan oo mise voucher-ka la siin karayo kusoo adeegan karayaan badankooda hooyooyinka ma garanayaan I think so there's a kind of because of the language barrier waxaas ma soo raaraasano runtii waxaas Soomaali adaan ahay waxaan rabnaa un wixiina horjeeda un baan aragnaa inta kale we don't come out of our way to do something different dabcan waalidiintii laftigooda kala qoqobayeen oo iskuma gudbi karaan oo yani caawinaad iyaga laftigooda isma siin karaan laakiin dhinaca iskuulaadka do you think iskuulaadka inay caawinaad ay siinayaan waalidiinta batooyinkaas haystaan caqabadahaas and if I speak on behalf of myself anigu horta haddaan nafteeda ka hadlayo anigu iskuulka way soo wacaan haddii noqoto homework waan ka soo qaataa I don't think hooyo walba inay waxaas laga helayo chance because I requested it aniga dalbaday aniga ka soo qaaday passwordkii iyo emailkii laga rabo aniga schoolka tagay laakiin badankooda hooyooyinka kale I don't think they know intii waraaq lagu soo dhiibay mooyaane oo intii la isku gudbiyay inay waxaas jirto waxaan dareemayaa weli they are struggling their parents are struggling to homeschooling the kids yeah maxay kula tahay laakadoo kale organisationkiinoo kale hadda familiyaashaas aad caawinaysaan qoysaskaas dhinaca waad sheegtay dhaqaalahoo kale qoysas waxaa jira magaalada ama wadanka ku cusub oo weli maarkan dhaqaalahoodu uu xadidan yahay laakiin maxay tahay is leedahay yani adinka ururkiinoo kale yani aad maaragtay aad ka caawin kartaan oo kale qoysaskaas oo kale yani ramadaanka oo kale waxaa laga yaabaa hadda ramadaanka oo kale inuu asaguna maaragtay la yimaado hawshiisa waa iska garanaynaa ramadaanku aad bay dadku maaragtay runtii mashquul u noqdaan gaar ahaan cunto karinta iyo waxyaabahaas iyo dadka afur diyaarinta markay tahay marka muxuu marka organizationkiinu kula talin lahaayoo kale yani bisha ramadaanka qoysaska maaragno aad caawisaan horta bisha ramadaanka waa bisha khayrka ugu badan weeyaan waa bisha khayraad weeyaan dad badanna waa markay sadaqa badan baxsadaan waa marka xoogooda iyo maalkooda ay sadaqaystaan weeyaan marka waxaan nafteyda iyo nafta ummadda kale aan u sheegaya inay xasuustaan qofka guriga ku xiran haddaad adeega soo samaysatay qof kalena soo xasuusto haddaad wax ugu dari karaysa
حتى سنتر كينقول نقول كم مسي وجوجي ماشى قفك تجرنيس وباهن كل بواس أجنه الصومالي ما هدد وديس كتشيفة ودد وما رتيس جرنينا هل كان قفو هل جرجي كلي جدًا ولا جرنين كلي جدًا جهين وحبها السنة ودد سكح ربعنا هاي مركز سكحلناته سيتوين الحسوسات مركز أديك جسوا سميني حسوسو درس كذا مس قفك وباهن أتجرنيسا إن قف كاسنا عاوز إن شاء الله. maxaa is leedahay oo kale nada qoysaskan oo kale bisha Ramadaan caqabadaha yani ugu badan ay noqon kartaa ama challengeska ugu badan oo ay soo wajihi karaa iyaga qoysaskaasi to maxaad u malaynaysaa ku celi su'aaltaada please laakiin hada qoysaskan hadda aad caawisaan adinka yani bisha Ramadaan dhibaatooyinka ugu badan oo iyaga soo wajahaya aad is leedahay maxay tahay horta dhibaatada ugu badan aniga telefonka markii soo dhaco waa panic iyagoo oo moodayaan waxaan inay ka bixi doonaan bacda Ramadaan intii wari gaarin ay Ramadaanka ugu soo gashay iyagoo guriyaasha wax yar yar lagu ku keen because waxaan keenoba I don't think waxaad u baahan tahay dhan inay ku dhameystirayso waa wax yara goob markaas waxaan arkayaa mar walba panic baa ku dhacay dadkii ma garanayaan alaabtii Ramadaankii wixii loo baahan yahay oo wad garanaysa waa soo adeegana run ahaan Soomaali markaan Ramadaanku noo imaado wixii aad u heli kareenin wixii aad rabtay is panic badan baa ku dhacay dadkii gaar ahaan kuwa maaragtay qoysaska hadda ama waxaa laga yaabaa shaqooyinkoodii inay ka joogsadeen ay shaqaynayeen ama waxaa laga yaabaa muxuu ahaa in uu maaragtay dhaqaalihii uu ku yaraaday saa adiga sheegaysa oo kale gaar ahaan dadkii dee awl hore xataa u deganaayo maaragtay shaqooyinkii maaragtay ka istaageen oo kale caruur yararna haysta ama caruur tiro badan oo kale haysta oo dhaqaalahoodii uu yaraaday maxaa adiga marka talooyin usoo jeedin lahayd waalidiintaas oo kale iyo ama caawinaad kale oo ay raadsan karaan ma jirta hadda adinkoo kale waxaad muxuu ah dabcan wad caawinaysaan oo dee intii tabartiina laakiin caawinaado kale oo ay raadsan karaan oo adinku aad kula talin lahaydeen ma jirtaa waxaa jirta inamo oo iyagu isxilxaamiyeen rabaan inay caawiyaan dadkii university credit ku jira iyo most of the horta waalidka waxay ku jiraan self employed bay ku jiraan marka iyaguna waxay group ay samaysteen familyga caawinayaan linkiga waan kuu soo diri doona insha Allah inankaasna isagu wuxuu ka caawinaya dadka waa businesska iyo employment self employmentka dadka ku jira iyo universal creditska dadka ku jira ayuu caawinaya midda kale waxaad ogaata dad badan waxay ahaayeen way iska shaqaysanayeen caadiga dawladana waxba kamay qaadan jirin marka dadkaas ugu liita maanta maadaama lagu yiri gurigii fariiso waxbana gacanta kuma haystaan inta universal credit dalbanayaan is gonna take time insha Allah marka dadkaasna laga warhayo weeyaan dadkaas is more important we need to as a community ma aragtay inaan dadkaas sii raadno because Soomaalina way aamusayaan dhibtooda way la aamusayaan ma sheeganayaan dhibtooda way la aamusayaan inaad aamustaan ma aha because dawladda inteedii soo gaarayso waqti badan bay qaadanaysaa marka waxa imikada meel walba aad arkaysa community baa dad caawinaysa marka reach out hadal ha aamusin dhibaatadaada hala aamusin at least waa lagu garanaya dad baa lagu caawinaya telefonkeyga you can call aniga dad baan ku gudbin karaya oo waxaad rabto laga caawin karaya insha Allah mise inagu hadana anigu xalin karayana waan samayn karaya insha Allah gaar ahaan hadda tala bixinta oo kale universal credit ka waa fahmi karaa oo wixii oo dhan waxay hadda noqdeen muxuu ahaa online-ka marka internet-kaas lagu dalbanaya waxaan ognahay inta badan deesaa shaqada Soomaalidu yani isticmaalka internet-ka waxa laga yaabaa dadka waaweyn inay marka runtii ku adag tahay hadirtaana yani hay'adihii ay u tagi jireen oo kale tala bixinta oo caawin jiray oo kale xafiisadooda inaysan tagi karinin marka yani dhinacaas oo kale waa arrin maaragtay anaga hadda Leicester oo kale waa saas oo kale weeyaano organization hada Somali Development Service oo kale waxaanu ka sameynaa telefoonka ama emailkaanu dadka ku caawinaa maxaa taloo siin lahayd lakada ururkiina oo kale runtii yani waa talaabo weyn oo lagu daydo oo maaragtay in adigu adoo hooyo aad isxilqaantid inaad maaragna cuntooyin aad intaa usoo iibisid aad dadkii guryahooda hortooda u dhigtid ood u geysid runtii
tusaale weyn oo lagu daydo weeyaan isla marhaantaasna muujinaya yacni dadkeenu sida ay isku caawinayaan dadka caawinaysa horta kulligood Soomaali miya ah mise dad kale ku jira midda kale se maxaa oo kale oo yacni talaha u jeedin lahayd maaragtay Soomaalida kale oo UK iyadana dhinacyada magaalooyinka kale ku nool oo ay ka baran karaan maaragtay khibradaada ما شاء الله horta aad baad ugu mahadsantahay su'aalkaas runtii waxaan caawinaynaa markaan ugu bilaabnay waxay ahayd Soomaali bay ahayd runtii dadka isoo wacay markii ugu horreysay waxay ahayd Soomaali laakiin sidaan u socono imikadan waxaa gaadhay heer oo Carab oo sariir jiifa iyaguna oo waxba iyaguna samayn karaynin oo telefonkeyga social media ka heleen oo isoo wacayaan oo leeyihiin haddaa naga caawin karayso waxaas so waa intaa weeyaan markaas laakiin badankooda 95% waa Soomaali weeyaan oo only 5% oo dad kale weeyaan maxaa kula talin lahayd Soomaaliyada kale oo magaalooyin kale joogo kale maxay ka faa'iideysan karaan oo kale khibradda what can they learn from your experience for some they can learn from it. It's just a common sense weeyaan adigu haddaa tahay organization and you are running the community and you're running I'm a football call but I have to come out of my field and do something that I feel like is a common sense for me to do it marka waa inaad kacdaan weeya ma ahayna laydin yeero ma ahayna la yiraahdo and you have to be a role model and a real example for your community and for you to become a role model and a real model and a real example for the community you need to show actionki haddaad muujinayni oo leedahay aniga hadhowto marka waxay dhamaateena aad isku horkeynaysa dadka how wajigaad leedahay as a community to become in front of people when you didn't help anybody when you're in lockdown when the difficult time at this because I don't think in nolosheeda namari doonta waxaan oo kale but at this difficult time you can clearly do something for your community waxbaa samayn karaysa waad caawin karaysa hadday noqoto xitaa ma bixi karaysa you have health issue only one phone call away waad waci karaysa talo iyo advice baad siin karaysa xoogaad waxaad haysatay iyo talent wherever you have haddaad wadaad tahay counseling because imikadan mental health is gonna start kicking in now especially with the youth iyo hooyooyinka ilmihii caruur badan waad ogtahay Soomaalina caruur badan leenahay iyo gurigii oo isku buuqsan oo aabi iyo hooyo hal meel wada joogo banaanka u bixin so your job is to offer them any help they can be able to have inshallah wax adiga hadda kale caqabadaha ka hor yimid oo kale waad qaar baad kasoo hadashay laakiin yani inta dadkaas aad caawinaysay yani caqabado kale oo adiga ka hor yimid ama dadka ku dhibsanayaan ama diidayaan caawinaada laftigeeda aan sidii adiga aad ugu gudbinaysay maybe aan u rabinin ama si kale u rabo ma jireen way jiraan horta dad dhibsan oo lagu sheegay qofkaas dhibsan marka albaabka u degtina oo iyagu xanaaqaya maxaa la igu keenay alaabtaneeto anigu ma baahna runtiina way u baahan yihiin laakiin because of the Somali pride way xishoonayaan waxay leeyihiin oo anigu maxaa la igu keenay hada qofkii it's just small thing anigu kuma garanayo waxa tahay anigu waa la ii soo sheegay inaad u baahan tahay addresskaagu baa la ii siiyay albaabkan kuu dhigay waxa tahayna ilaahay wadada madmarti ma ku weydiinayo never in my life maaragtay ma ku sheegayo inaan ku caawiyo maalin ma ku weydiinayo xitaa because waxaan ahay maalinta adii baahneed waan joogay meeshaas taas ay muhiimsan maaha wax kale masha Allah laakiin hadda kale hooyooyin waxa jiraan yani kaligood nool oo caruurta kaligood ku ah oo yani aan la joogin aabihi la jooginin ama waalidiin ayaga xataa aan caawin karin ayaga caruurtoodii aan caawin karin runtii gaar ahaan wali waxbarashada maaragtay online soo adiga kale yani nasiib baa leedahay luqadii baa taqaana iskuulaadkii baa la xiriirtay yani caruurtaada saad u caawin lahayd laakiin waalidiinta aan taas awoodi karnin oo xataa dii caawinaadii iskuulka usoo diro ilmihii aan ka caawin karinin yani waxyaabihii internetka iyo computerka iyo waxyaabahaasayto maxaad kula talin lahayd mase jiraa wax caawinaad oo kale oo ama dad kale oo Soomaaliyeed oo waxyaabahaasi ka caawin karaan way jiraan dad kale oo inamo soo baxeen iyaguna caawinayaan oo mostly laakiin anigu intaan
intay soo waceen I'll make sure inay waxay igu soo waceen inaan ka caawiyo inaan qof kale u dirin horta runtii inaan u sameeyo waxay rabaan so most of the time aniga haddaan busy ahay marad adeegan ku jiro oo kale aan qof kale u gudbiyo mooyaane laakiin awoodeyda waan gudbiya inama way jiraan oo imikadan iyaguna soo xilqaabeen oo rabaan inay community caawiyaan dhalinyaro badan baa soo baxay iyaguna ay dadka rabaan inay caawiyaan marka there is help up there is sidaad u heli lahayd weeyaan sidaad u heli lahayd ما شاء الله يعني waxaan ka baranaynaa oo ka faa'iideysanaynaa taas inay tahay yani waxa jira caawinaad badan baa jirta runtii yani wadanka gudihiisa magaalooyinka dad badan oo sidaadoo kale isxilqaamay oo runtii shaqooyin badan dadka u qabanaya jira jaaliyadaha laakiin dadku waxa laga yaabaa dadka qaarkood inaysan ka warqabinin sidee bay marka ku ogaan karaan caawinaadaadoo kale dadka muxuu ahaa aan ka warqabinin caawinad noocaas kale jirto okay hadda inaguna rabo telefonkeyga telefonkeyga waan dhigi karaya hadhowto on the link below insha Allah iyo adreeskeeda xafiiskeena meesha ku yaala cadaam imikadan adeegan soo samayno aan centerka dhigno dadkii volunteerka imanaya oo cuntadii guraya oo cuntadii dadka u geynaya alxamdulillah soo fa marka mar walba xafiiskan jooga intaan dadka cuntada u dhiibdhiibaya hageeyaan taas waa kow ka labaad telefonkeyga laysoo waci karaya habeen iyo dharaar hadday noqoto xitaa 2 in the morning hadday tahay isoo waca haddaa wax u baahan tahay magaalada Birmingham haddaa degan tahay waana magaalada Birmingham ka hadlayo ana kasoo hadlayo hadday tahay I'm here maaragtay as a community member as a sister as a mom maaragtay waxaad iga baahan tahay insha Allah I'm here to help insha Allah aad baa u mahadsan tahay mar kale waxaan jeclaan lahaa inaan maaragtay kaaga mahadnaqo caasha sidii sharafta lahayd oo noogala soo qabtay barnaamijkan iyo caawinaada aad u furnaysid maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo dadka kaleba oo maaragtay ku dhibaataysan cudurkan saameyntiisa aad baan kaaga mahadcelinayaa jazakumullah khayran waxaan jeclaan lahaa markaan su'aal inooga timid muxuu ahaa dadka khadka internetka nagala socda Dr. Cabdisamed haddaad maqlaysid waxay maaragtay dadku ay weydiinayaan runtii maxay kaloo samayn karaan yani oo dadaal ah oo gacmo dhaq aan ahayn dadku ka soo qaado kale inay maaragtay ay cuntooyinka ay soo gataan oo kale iyo waxyaabahaas oo kale ama waxyaabaha banaanka ay ka keensadaan in ay maaragtay ay ku dhaqaan waxyaabaha anti maaragtay bacterialka oo kale maxay samayn karaan oo dadaal oo siyaada aan ka ahayn maxaa gacmo dhaq inta uu ku noolaan karo viruska bacaha wax la isku raacsan yahay ma aha laakiin waxa la dhahaa waxay ku xiran tahay dabcan surface-ka ama meesha la dhigayo waxay kaloo ku xiran tahay waxaan u maleynayaa inay ku xirnaanayso su'aashii uu fadiilada sheekh usuli uu weydiiyey waxay ku xirnaanaysaa kulaylka meeshaas ka jira marka kaliya oo kulaylka la yiraahdo muhiimad buu leeyahay waa markaas meelaha kulul markaad joogtid surface-kana hadduu adeeg yahay inta uu ku noolaanayo way ka yaraanaysaa marka anugu kuma taliyeen antibacterial in cunto lagu dhaqo sababtoo ah cuntadaas aad hadhow cunaysaa markaa cuntid suntaas antibacterial ku jirta ayaa dhibaato ku keeni karta jirkaaga u keeni karta ama afka ha noqoto ama xataa sanbabada noqon karta marka taa kuma taliyeen dabcan bacdi lagu keenay baad ka bedeli kartaa bac kale aad ku bedeli kartaa xogaa waqti baad siin kartaa ka bacdi waqtigaas ayaad isticmaalaysaa cuntada lagu keenay waxaa falaxalka kadib waxaa hadda ayada waxyaalaha aad iyo aad maxaa la yiraahdaa laga doodo waxaa ka mid ah in mask qofku inuu gashto markuu banaanka aadayo isagoon xataa cudurkii qabin in ay faa'iido leedahay dalalka maxaa la yiraahdaa Asia oo uu ka soo bilowday aad ay u isticmaalaan Mareykanka nimanka la xiriira cudurrada ayagu laftirkoodu waxay yiraahdeen qofka waxaan kula talinaynaa hadduu banaanka u baxayo inuu mask gashto marka taasna waa la samayn karaa laakiin dabcan waad aragtay ingiriisku waxay sameeyeen maaha dadka conservative ah laakiin taasna dadku taliya waa jiraan qofku uu samayn karo wuxuu samayn karaa qofku inuu dabcan haddaad lugeynaysid jidka aad maraysid hadduu qof aad kaasoo horbuuxo inaad jidka dhan kale u goysid oo aad iska ilaalisid qofkii inaad in maxaa la yirahdaa 2 mitir 3 mitir inaad ka badan inaad isku jirsan talooyinkaas
guud ayaa la sameeyaa dabcan waana qofkii aan qabin sida uu iskaga ilaalin karo. su-aasha ugu dambaysa ku weydiin lahaa Dr. Cabdisamad waxa weeyaan mararka qaarkood internetka waxaa lasoo geliyaa dad waxay la xiriirtaa cirbadihii maaragtay adhaysana dadka maaragtay dhiig u xinjiroobin cirbadaha lagu duraa qofku hadduu muddo uu xogaa isbitaalka ku jiro waxyaaba maaragtay internetka lasoo geliya waxay ka mid ahayd maaragtay qof isagoo familigiisa la soo xiriiraya dhahaya yani cirbad baa ii haysta cirbad baa iigu midaya dadkuna ay u qaateen inuu yahay cirbad sun ah una qaateen qofkii inuu dhintay oo cirbadaas intuu dhintay ay u qaadanteen inuu cirbadaas u dhintay so cirbadaha dadka markay tagaan la siiyo oo kale iyo dadka waxyaabahaas oo kale aaminsan ama faafinaya maxaad ka oran lahayd? horta cirbada xinjirowgu waa cirbad yar waa sawirkii ma soo saaraa meesha si dadku u arkaan. ما قال منطقني وقش هاي شارنا هكان كسميو والله سمها اوكي marka cirbadu waxay u eg tahay waa cirbadaas dhexe weeye waa cirbad aad iyo aad khafiif u ah oo u eg cirbada qofka sokorta qaba lagu duro badanaa waxa looga duraa qofka caloosha dhanka maxaa la yiraahdaa adigu xudunta geesaheeda ayaa looga duraa muhiimaddu ay leedahay cirbadaas waxa weeye qofka inta uu isbitaalka jiifo inuusan dhiiggiisu uusan xinjiroobin haddii uu dhiigga xinjiroobo uu sanbabada u gudbo halista uu qofkaas uu naftiisa ay gelayso inuu dhinto ayaa kor u kacda marka waa isticmaalnaa bal qofka covid qaba waxaa laga yaabaa badanaa ma aragtaa meesha inay 40 milligram ku qoran tahay in laab la siiyo mararka qaarkood ka badan la siiyo si looga hortago inuu xinjiroobo cirbadaha kaloo la siiyo waxaa ka mid ah faleebada hadda midkaan yarkaa ujeedid waxa weeye faleeba ay ku jirto antibiotic ay ku jirto qofkii haddii ay ku dhacdo infection oo bacteria la xiriirta oo marmarka qaarkood dhiigga laga arko waxaa laga yaabaa in faleebada lagu duro mararka qaarkoodna qofka hadday nafaqada ku yar tahay ama uusan wax badan cunin ama aan maxaa la yiraahdaa kaliyihiisa ay dhibaato gaarto waxaa laga yaabaa in la siiyo faleeba nafaqo ama faleeba ay ku jirto maxaa la yiraahdaa biyaha cusbada leh oo intravenous fluid la yiraahdo marka taasna waxaa laga yaabaa in lagu duro qof dhakhtar ah oo maxaa la yiraahdaa aan aqaano oo ku fakarayo qof inuu dilo ma jiro wuxuu ka helaya ma jirto midda kale qofka dhakhtarka ama nurse-ka qof walba qofku waxay siiso waa qoran yihiin marka qofkii uu dhibaato gaarsiiyo waxa weeye dabagal baa lagu sameynaya isagaa lasoo qabanayaa midda su-aashaas in dhakhaatiirta dad ku durahayaan haddii tahay su-aashaas su-aal ka imaanaysa ingiriiska oo kale maalan 20% dadka NHS ka shaqeeya NHS oo dhan oo dhakhaatiir iyo nurse hataa mandeeqo meesha ku jirta ay ku jirto waxa weeye dad ajnabi ah weeye haddii la yiraahdo dhakhaatiirta ingiriiska shaqeysa weliba isbitaalada magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu degan tahay waxaa laga yaabaa 50% ka badan inay muslimiin yihiin hadda qaybteeda isbitaalka inta joogta 13 consultant waxaa caddaana 2 qof kaliya maxaa la yiraahdaa 11 kale waa ajnabi inta u badanna waa dad muslimiin oo mutadayiniin oo ahlu salaad ah marka qof dhakhtar ah oo aan ogahay ama aan aqaano oo u qasdahay qof bilaadan inuu dilo ma jirto marka dadka waxaan dhihi lahaa qofkii xanuunsan talada caafimaadka ha raadsado isbitaalka ha tago ama wax covid la xiriira oo mataqaana qofku ama neeftuur ha isku arko ama neefta ku dhagto ama xataa waxaan covid la xiriirin oo haddii maalan ay stroke ku dhacdo oo maxaa la yiraahdaa gacan qallasho ama wadnaha laga qabto inuu qofku uu aado talada caafimaadka oo aado isbitaalka aadan kula talinayo hadda u mahadsan tahay Dr. Cabdisamad sida kooban oo noogu soo maaragtay faahfaahisay su-aashaas su-aal baa jirtay la weydiiyey oo ah maaragtay in ay jirto guddi taleed qaabilsan arrimahaanayta oo Soomaalida runtii golaha qurbo joogta Soomaaliyeed waxay samaysay muxuu ahaa yani barnaamijkan wacyigelinta ayaanu samaynay oo aan ugu talagalnay in aan maaragtay usbuuc kasta aanu ku siino dadka wacyigelin aanu ku samayno
oo mar walba khubro dad maarkano ku takhasusay dhaqaatiir muxuu ahaa dhinaca diinta dhinaca maarkano jaaliyadda dadka la shaqeeya ah inaanu keenno isbuuc kasta aanu nasiino wadan walba maaragtay waqti baan siinayna sanadkan marka isbuucan waxaanu ka hadlaynay UK baanu ka hadlaynay isbuuc soo socda waxa weeyaan Australia ayaa maaragtay ayaa ka hadli doonta wakiilada inoo jooga marka saas u wareegan doonaa muxuu ahaa macluumaadka u baahan maaragtay dadka inay arrimahaasito ama ay la socdaan ama ay nala soo xiriiraan ama website-keena ama social media na Facebook ama Twitter-ka GSD ayaad nagala soo xiriiri kartaan UK oo kale anigu aan joogo waanu yani jaaridaha Soomaalida oo dhan waanu isku nimid oo maaragtay runtii arrimahaasito waanu ka tashanay waanu ka shaqaynaynaa weli sidii maaragtay la isaga kaashan lahaa laakiin marka la fiiriyo caalam ahaan marka la fiiriyo GSD iyadu waxay tahay xubinta maarkano ama waxaan dhihi karaa forumka ugu habboon oo maaragtay inay dadku ay la soo xiriiraan si maaragtay ama waxyaabaha u baahan tihiin ama talada inaan idinka maarkano waafino ama haddii kale ciddii ugu habboon oo aan idinku xiri karno maaragtay inaanu idinku xirno barnaamijkeenina maanta sidaas ayaanu ugu soo gabagabaynaynaa halkan waxaan mar kale jeclaan lahaa inaan u mahadnaqo ka qaybgalayaashii martida inoogu ahaa maanta anigoo ku horumaraya Sheekh Cismaan Xaaji Sheekh Suuli sidii sharafta leedahay waqtigiisa inoo soo siiyey maanta Dr. Cabdisamed Cali oo asaguna maaragtay aad iyo aad runtii dhinaca caafimaadka nooga qabtiray iyo Caasho Raage iyaduna oo nala qaybsatay dadaalka weyn ee maaragtay jaaliyaduhu ay runtii ugu jiraan sidii ay maaragtay dadka dhibaateeyay cudurkan ay u caawin lahaayeen waxaan si aad u jeclaan lahaa inaan aad ugu mahadnaqo Mandeeq runtii Mandeeq wax weeyaan ma arki kartaan adinku laakiin behind the scenes waa qofka waxaan oo dhan technical isku soo dabariday oo soo aruurisay oo soo qabanqaabisay oo waxaan oo dhan maaragtay runtii nagala shaqeysay nagana saaciidaysa dhinaca maaragtay waxyaabaha teknolojiyada aad iyo aad baad u mahadsantihiin intiina maaragno khadkan internetka nagala soo qayb qaadatay oo na dhageysanaysana waa idinkaga mahad celinaynaa waqtigeena aana siiseen sidoo kale hadday jiraan maaragtay su'aalo aan maaragtay aad soo gudbiseen oo laga jawaabinin waxaan isku dayaynaa inaan khadka maaragno social mediaha maaragtay aanu idinkugu soo gudbino intiina adinka aan u lahayn nasiibka u helinin inay nagala soo qayb galaanna barnaamijku asaguna waa duuban yahay oo maaragtay barta internetka Facebook golaha joogta Soomaali GSD ayaad kala socon kartaan oo aad waqtigeena faraqada aad ku dhageysan kartaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته